Okay. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنتي وعنا wanaagsan daawadayaal meel kasta oo nagala socotaan ba ku soo dhawaada barnaamijkeena cawayska caawa iyo Aamira Muuse Weheliye oo barnaamijkan xiisaha badan caawa marti inoogu ah daawadayaal haddii aad maqashaan iyo haddii aad aragtaan iyo haddii aad dhageysanaysaan ba Aamira Muuse Weheliye bulshada Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaali ku hadla caan ayuu ku yahay aqoonteeda Aamina Muuse Weheliye caawa waxaan filayaa inaan waxyaabo fara badan aan ka wareysan doono markii aad soo badataan ay bulshadu wada timaadana waxaa mar labaad ugu celin doonaa Aamina Muuse Weheliye iyo xaaladeeda laakiin waan noo soo badan haysaan Aamina Muuse Weheliye waa la soo socdaa waan filayaa hadda dadku way ku cusubnahay marka ugu horeysa waan ku faraxsanahay horta inaan caawa Aamina Muuse Weheliye oo weriye caan Soomaaliyeed aan hor fadhiisto anagoo wariyaasha kaaga dambeynay hadda waxaad u bedeshaan maalinay horta wariyaha markii laga gudbo inta la imanayo haddii aan sii kaftano xagee loo dalacaa wariyaha haddii laga gudbo haddaad nasiib leedahay oo aadan intaad wariyo joogto aadan dhiman waxaad noqonaysaa qof qabta mas'uuliyadda warfaafinta oo waddanka ama company warfaafineed oo weyn madax ka noqda sida nin la yiraahdo halkan David Murdoch la yiraahdo oo waddankan Britain oo kale ama maxay ahaydonay telefishinno ama wargeyso badan yeelato ayaa looga dalaci karaa ama inaad noqoto diplomat iyadana waa looga dalaci karaa wariyanimada waxyaabaha ay ku isu dhow yihiin bay ka mid tahay markaad rabto inaad ciyaartoydu cuslaatay inaad noqoto markaad saragtay waxaad uga dalaci kartaa diplomat way ka fiican tahay inaad siyaasi noqoto waxa ka fiican inaad diplomat noqoto maxaa yeelay qofka oo saxaafadda intuu ku jiro wuxuu bartaa waxa la yiraahdo xiriirka caalamiga ah iyo wuxuu bartaa social affairka arrimaha bulshada u bartaa marka wixii arrimaha bulshada ku taqaluso oo dhan aa looga dalaci karaa aad iyo aad baad mahadsantahay Aamina Muuse Weheliye waxaan maraya waa la soo batay marka dib baan ugu noqonaynaa mudayaal barnaamijkana maana bilaabanin waanu idin sugaynay intaad ka imanaysaan marka haddii aad intaan noqoteen kulley waan iska bilaabanhaynaa kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal barnaamijkeena caawa waxaa marti inoogu ah Aamina Muuse Weheliye oo ah weriye caan ah oo ka soo shaqaysay meelo kala duwan oo warbaahinta Soomaaliyeed ah xoga fara badan ka haysa xaaladda geeska Afrika qodobka caawa waxa uu dooran yahay waa kowda Luulyo oo ah habeenkii ummadda Soomaaliyeed ay ku midowday gobonimada gaar ahaan intii markaas nasiib u yeeshay in calanka Soomaaliya ay hoos istaagto qodobka labaad aynu kaga hadli doonaa barnaamijkeena caawa cawayska heegan waxa uu yahay soo deynta halgame Cabdikariim Sheekh Muuse oo sanadkii ugu dambeeyayba geeska Afrika ka ahaa haliyey isagoo ogsoonahay inuu horay haliyey u ahaa balse ummadda Soomaaliyeed ina horay u ogeyn haliyey nibadkiisa waa uu ku soo caanbaxay qodobka saddexaad waa marin habaabinta bulshada Soomaaliyeed ee toddobaadadan socota meel kasta oo nagala socotaan iyo si kasta oo noo socotaanba waa Aamina Muuse Weheliye iyo anigoo ah saaxiibkeena Askari Cabdullaahi barta aad nagala socotaana waa cawayska heegan oo lafteedu baryahan si weyn ummadda Soomaaliyeed uga haqabtirta hadba xaaladaha jirta Aamina Muuse Weheliye mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow waana salaami doontaan aniga asxaabta caawa halkan ka daawan doona laakiin taasoo dhan waxa ka horeysa aad waxoogaa noo taabatay Aamina Muuse Weheliye halkay ku dhalatay waxbarashadeedii iyo marxaladihii kala dadwanaa ee music iyo salaamaha oo Allah u naxariistay hawaan awke ay si fiican soo leedahay jireen bal si kooban waxaan rabnaa in aad taariikhda kooban aad dacwo noo siiso intayna barnaamijku gudagelin walaal aniga waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho caasimadda waddankayga Soomaaliya isbitaal la yiraahdo isbitaalka Martini oo badda heeladkeeda ku yaalan ku dhashay oo yaday waxa iga umuliso Soomaaliya ay umuliso Chinese ah ma fahamtay labadii umuliso tii Chinese kaanu meel kuma oglaagtay Soomaalida waa nooshahay Mareykanka ku nooshahay wali waxaan dhashay xukunkii Maxamed Siyaad Barre ka horeeyay dawladdii Siyaad Barrena waxay dhalatay anoo 3 jir ah sidaas ayaan dawladdii kacaanka ugu hoos koray waxna ku bartay waxaan ka mid ahay dad Soomaaliyeed oo fara badan oo hadda dad waaweyn ah oo canshuurtii waddanka wax lagu baray Soomaali oo dhan laga qaaday oo aan reer hebel loo eegin oo aan tabar loo eegin oo aan waxba loo eegin
dadkii wax ku bartay oo waxbarashada freega ah hela ayaan kamid ahay marka laga reebo 2 sano oo aabahay uu iga bixiyay school private ah oo markaas qaali ahaa oo ay xukumayeen nanis waxa ingiriisiga lagu yiraahdo ama soorooyin talyaani ah ay xukumayeen oo bishii 100 shilin la bixin jiray ayaa la iga bixiyay 2 sanadood ayaan private kaas dhigto oo waxbarashada ku bilaabay private school sida hadda wadamadan Mareykanka iyo Yurub iyo aan joogno iyo xataa wadankeena Soomaaliya hadda ma jiro school dawladeed laakiin ay school private u yihiin ayaa lacag lagu bilaabay markii hore ka bacdina lacagtii way socon lahayd laakiin Maxamed Siyaad Barre oo madaxweynihii qaranka Soomaaliyeed xilligaas wuxuu ka baqay ardada inkastoo private ay yihiin oo waalidiintooda lacag fara badan ay ka baxsadaan in haddana la gaaleeyo ayuu ka baqay oo la kirishtaamay oo hoosta wax loo geliyo ka baqay saas la ajligeed waxa kale oo rabay inuu xoojiyo sinaanta dalka iyo dadka wax la yiraaho sinaanta oo isagu markaas ka waday waana runtii in caruurta Soomaaliyeed ay kulligood isku system wax ku bartaan saas la ajligeed dadkii ila dhigan jiray college Nova Somala taariikhdan ka sheekaynayo waa yaqaanaan waa ogyihiin Facebook groupna waa qabnaa kulli wixii college Nova Somala dhigan jiray oo ahayd collegeada Soomaalida cusub ayaa laga waday wiilal iyo gabdhaba waan lahayn waxay ku tiila barfiad korkeeda marka collegekii waa la baabi'iyay Maxamed Siyaad wuxuu yiri wuxuu amray dawladda wasaaradda waxbarashada wuxuu ku amray dekreeto madaxweyne illa ma iyo ardada collegeka laga baabi'iyay iskuulada qaranka loo qaato arda cusub iskuulka lama qori karo maxaa yeelay iskuulka capacity-giisa ma qaadi karo markaas arda fara badan markii saas collegekana looga baabi'iyay waxa loogu wareejiyay iskuulka Hodan iyo Holwadaag 2 iskuul oo isku dhaganay ahayn laakiin iskuulka Hodan ayaa la igu wareejiyay sidaas ayaana ku bilaabay laakiin far Soomaaliga waxa la qoray aniga oo soorooyinkii ay macallimiin yihiin ayaa la qoray far Soomaaliga oo Talyaanina lagu baray wax 2 sano 1 sano iyo bar sanadkii hore markaan Talyaani ku bartay xanaanada caruurta azilia la dhahaa ama nurseryga sanadkii prima class ama galaaska koowaad wali af Talyaaniga kala bar markaan dhiganayna af Soomaaliya loo rogay gabarda habal la yiraa ayaa iskuulka ka ahayd directorad ama directorada ay ahayd waxa macallimadii ahayd oo macallimiinteeda kamid ahaa hadii ay noo sheeg gordho way nooleed la dhalay ku nooleed macallimad la yiraahdo Cadar Neero iyo waxa macallimadii ahaa gabar kale oo la yiraahdo Istanbul oo qaadi jirta heestii ciyaaraha radio Muqdisho oo kooxda iftiin dadkii lagu bilaabay ka tirsaneed iyo macamad la yiraahdo Paula ayaabadaas macallin Paula iyo oo Talyaani ah iyo macallimad Istanbul waxay noo ahaayeen macallimiinta noo qaabilsan fanka iyo tarbiyada macallimad kale oo waxa jirtay af Soomaaliga noo bari jirtay oo la yiraahdo Cadar Neero oo wasaaradda warfaafinta ay soo dirtay waxa uu ahaa school boarding school oo la seexdo numberka aan xiran jirin wuxuu ahaa 53 oo ah 53 ama 53 marka halkaasaan ku dhashay kadibna markii iskuulkii Hodan aan dhiganay waana guurnay waa bari aan deganay waa ka guurnay shantarka agtiisa aan deganay golaha hanuunta dadweynaha agtiisa markii aan ka guurnayna waxa uu guurnay degmada Yaaqshid maxaa yeelay aabahay wuxuu ahaa ganacsato isugu jira guryahana waa ka ganacsan jiray foornooyinna waa lahaa oo rootiga lagu dubo waxa kale oo ahaa nin gaadiidka BL-ka ama gaadiidka dadweynaha ka ganacsada marka hadba guri ayuu gadi jiray gurigaas marka uu gado ayuu guri kale ku gadi jiray marka aaba waana fogeeyay Yaaqshid aan degnay Yaaqshid markaan degnay waxa la ii bedelay iskuulka la yiraahdo hoose dhexe General Daawud oo sarana laha ayaa la ii bedelay iskuulkii markii aan dhigtay galaaska labaad oo galaaska koowaad waxaan ku soo dhigtay collegeada galaaskii labaad waxaan hadan ku soo dhigtay Hodan hadana markii aan galaaskii labaad Hodan ku dhigto Yaaqshid soo guurnay waxay ahayd 1974 markii la aaday ololaha horumarinta reer miyiga markii halkaas la aaday dawladda waxay joojisay waxbarashadii si ay ardadii waaweyneed iyo macallimiinta iskuulada ay ugu dirto baridda inay dadka af Soomaali soo baraan oo miyiga loogu diray soo hal sano anaka iskool ma dhiganin markaas halkaasna oo iskoolka aan ka joognay waa 1974 waay 74 maadaama aan iskool la dhigan 75 wasaaradda warfaafinta waxay amartay anu kasta oo Soomaali ah oo iskuul dhigto inuu iskuulkii galaaskii hore ku noqdo maxaa yeelay hal sano waxbarashada laga maqnaa ilmaha waxbarashada waa hilmaameen sidaas ayaa hadana sukunta galaasna loogu celiyay isla General Daawud ka bacda aniga waa la ibadalay waxaan la igeeyay iskuul kooda luliya waxbarashada inta kala ku dhameystay halka aan galaaska shanaad iyo galaaska lixaad aan
galaaska lixaad oo markaas ku dhamaanayay 6 ku dhamaanayay mar dawladdu waa bedelo jirta marna 8 ku dhamaaday laakiin aniga loodkayga wuxuu ku dhamaaday galaaska lixaad primary school wax la isku dhaho ama dugsiga hoose dhexe galaaska lixaad aan ku dhameeyay school kooda lulu ayaan ku dhameeyay waxaana iga xasuusa ninka hadda wadanka madaxweynaha ka ah iyo aniga galaaska lixaad iyo galaaska shanaad waa isla dhiganay iskuuloodaan ahayn waxaana ku wada dhiganay maxay tahay iskuulkii kooda lulu xilligaasna waxaa soo galay dagaalkii 1977 ee Itoobiya lagu qaaday aniga iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan dhiganaynay iskuulka kooda lulu ka bacdi iskuulkii kooda lulu oo dugsiga dhexe markaan soo dhameystiray waxa haddana loo soo celiyay xaafadeydii iskuul Jaraal Daawud waxa qabnay 3 option sida hadda wadankan Yurub hadda wadanka aan joogo ay ka 3 option aan dooranay 3 iskuul waxaan doortay 15 May waxaan doortay iskuul la yiraahdo xisaabaadka iyo cabiraada waxaan doortay iskuul Jaraal Daawud ay 3 ahaa labadii kale waa waaye iskuul Jaraal Daawud waxaan kamid ahaa ardayda ugu dambeysay oo la qoray saas darteed galaaska subaxleyda ayga buuxsamay waxaan noqday galaaska galableyda oo E iyo F laba galaas ah galaaska F ayaan noqday waxa macallimiin ii soo noqday Nuur Sharci Ismaan Maxamed Ibrahim Dhakalo Maxamed Cabdi oo biology noo dhigi jiray macallin Calashiina la dhigi jiray oo taariikhda noo dhigi jiray directorkeeni Saban iyo directorka horeeya jiray magaciisa ma xasuusto iyo maxay ahaatoonay Xasan Libaax intaas oo dhan macallimiinteeda iyo directoradeeda ay ahaayeen waxbarasho saliima oo aan interruption lahayn oo xabada dhacday lahayn oo kala carar lahayn ayaa dhameystay markii aan dhameystana dugsiga sare bunta fiican aan ku baasay qaasatan sayniskan ku fiicnaa aniga weligay xisaabta waa necbaa laakiin sayniska aad ugu fiicnaa Soomaaliga taariikhda iyo juqraafiga kulli waxaan keenay xisaab fiican waxaan dugsigayga sare shahaadadeedii waxa xoogaa yar aan maaragtay ku yara liita physics-ka oo xisaabaad u badnaa inta kale laakiin bunta fiican aan keenay ka bacdi waxay noqotay in la galo dugsiga tababarka macallimiinta xalane dugsiga tababarka macallimiinta xalane waxa la gelin jiray ardayda marka ay soo dhameystaan dugsiga sare markaas waxa laga soo dhigayaa askari adag oo qatar ah 9 bilood ku jiraysa dugsigaas waxa waaye wax alla wixii baraf ahaa oo hooyada ku siisay iyo wax alla wixii jalaata ahaa oo aad ka dharagtay iyo ciyaal maamadnimada dhan halkaas ku soo haraysa dugsiga tababarka macallimiinta xalane markaan soo dhameystana waxaana loo bedel waxaana lagu qoray wax la yiraahdo national service qaranka inaa u shaqeyso qaranka wax ku soo baray oo canshuurtiisa wax ku soo baratay waa inaa u celiso canshuurtii oo aad hal sano u shaqeyso laakiin saas oo tahay lacaga lagu siinaa mushaar lagu siinaa dugsiga xalana markaa ka baxaysidna lacaga lagu siinaa 600 oo shilin lagu siinaa 600 oo shilin aan qaadanay dugsigii waxaan umaleynaa 600 ahayd ma hubo laakiin 600 ahayd aan umaleynaa ka bacdi waxaan nahay macallimiintii marka dawladda wasaaradda warfaafinta meesha rabtay kugu qoraysaa hase ahaatee Soomaalida markasta musuq ma ka dhamaanaynin qofkii wasiir adeerkiis yahay ama ko adeerkiisa oo wasiir ka saayo ama maxay ahaytoon eedadiis uu maareeyo qabo ama maxay ahaytoon qabaa'ilada qaar ah kulli waxa lagu soo wada aruuriyo gobolka Banaadir lagu wada qoraysa in meel u aad dadkii Banaadir ka soo baxay laakiin aniga iyo dad kale oo ku jiro waxaana lagu qoray gobolka Hiiraan qaxooti markaas la abaabulay oo Itoobiya ka soo qaxay oo Soomaalida hadda Soomaali galbeed u badnaa ayaa la dajiyay halkaas ayaa lagu qoray qaxooti la yiraahdo qaxootiga Jiiqley waa maalinta cirka ay rooray aniga waayo anu afgooye iyo ceel jaal ma dhaafin ma fahamtay maalinta qaxootiga Jiiqley lagu qoray naxdinta adduunka naxay adeerkay faaraxa u tagay faaraxsinta Allah u naxariista oo markaas waaxda ijtimaaciga madax ka ahaa nin walba ninkiisa u tagaay waxaan daa adeero aniga waa ka cabsanaa qaxooti Jiiqley ma tigi kara iga soo bedel maalintii kelmadii adeerkay yiri haddaan soo xasuusto waa ooyaa wayna ii fiicneed inuu kelmadaas dhaho wuxuu ugu yiri Jiiqley Soomaaliya joogta adigana Soomaali ayaa tahay Soomaali ayaa Jiiqley joogta adigana Soomaali ayaa tahay waa tagaysaa shaqada qaranka meesha lagu qoro ayaana ku soo ilaahay adeerkay ilaahay ha u naxariisto waa ii diiday inuu soo bedelo saas la ajligeed waa tagay laakiin marka Jiiqley tagaysto waxa laga xukumaa gudoonka gobolka Hiiraan oo ah magaalada Beledweyne inaad tagtid waay Beledweyne aan tagnay hooyaday ay raacday aniga oo weligay taraag noocaas aan gelin weligayna aan xamar iyo agagaarkiisa ka dheeraanin waxay ii ahayd adventure-kii ugu horeeyay safarkii ugu horeeyay oo aan galo hooyaday markay meeshii geysay waxa la ii raadiyay gudoonkii ninkii gudoonka madaxda ka ahaa ninkaas markaas hadda waxa la maqlay waa ka xumaha inuu isdilayaan maqlay mar dambe oo isgubayaan maqlay oo isdilay oo suicide sameeyay laakiin ninkii
wuxuu yiri aniga ma ku bedeli karo gobolka banaadir awood ma u leeyahay ku bedelo shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoosena ma ku bedeli karo waxaan rabaa ku bedeli karaa laakiin ina kala doorato beledweyne buulabardo iyo jaralaqsi aniga intaas ay hoos timaado markaas waxaan doortay buulabardo oo nin adeerkay u deganaa allah u naxariistay adeerkay cali qoorgaab beledweynena adeer mawlid qoorgaab deganay laakiin labadeeda adeer way kala reera badnaayeen wayna kala ilmo badnaayeen marka guriga waxa qolli iiga heli kara maadaama gabar inana oo markaas madaxa soo taagaysa ahay guriga adeer cali qoorgaab saas ayaa magaalada buulabardo la ii soo bedelay iskuulka 21 Oktoobar oo hoose dhexe ayaana macallimad ka noqday gabdhihii macallimiinta ila ahaa oo dhan waa xasuustaa canab siraad waa xasuustaa wiilashii jaylaani oo ahaa maxay toona fish directorkii xasuustaa si fiican ayaa shaqadeeda qaranka ugu ta waxaana ahaa macallimad dhigta sayniska ka bacdi waxaa la ii gudbiyey in markii la arkay firfircoonidayda iyo sida ay daacad iiga tahay shaqada maxaa yeelay walaal waxa isku xirnaa cabdinuura wararka waa kaa badiyey laakiin waxa isku xirnaa inaad shaqada qaranka si fiican u gudato iyo in imtixaanka jaamacadda lagu ogolaado ayaa isku xirnaa dowlad iyo sharci iyo kala dambeyn iyo nidaam ayaa waddanka ka jiray inkastoo musuq yar iska jiray iyo ilmo adeerow yar ay iska jirtay marka haddii aanan gudanin shaqada qaranka si fiican oo directorka iskoolka uunan u gudbinin guddoonka buulabarde report fiican guddoonka buulabardana uunan u gudbinin report fiican guddoonka beledweyne oo ah gobolka hiiraanna uunan u gudbinin report fiican oo aniga igu saabsan wasaaradda waxbarashada macnaheeda waxa waa aniga waa guultaraystay imtixaanka jaamacaddana mala ii ogolaanayo saas la ajligeed ayaa waxaan dhigi jiray sayniska ka bacdina waxaa la ii dhiibay soomaaliga iyo kacaanka soomaali iyo kacaan ayaa haddana la ii dhiibay soomaaliga iyo kacaanka sayniskaa la iigu daray ilaa markii dambe taariikhdiina la iigu daray ka bacdi markii la igu sameeyey macnaha wax badan inaan dhigaayo markuu arkay ninkii guddoonka ayaa isoo maxamuud aa la dhihi jiray waa isoo booqday markuuna soo booqday wuxuu dhaha waay gabadhaan ay 4 maado u dhigaysaa macquul ma aha inay dhigto saynis soomaali kacaan iyo taariikh macquul ma aha bas sidee la iiga bedela marka waa la iiga bedela waa la iiga yeeray sayniska iyo waxaa la igu soo reebay soomaaliga oo 2 maado isqaadatana ma ahayn macallimiinta wasaaradda jadwal ay lahaayeen ay ku shaqeeyaan laakiin aniga maadaama aan ku faraxsanahay iskoolkiina aan star ka noqday waxay noqotay sayniska xisaabta sayniska iyo waxaaga inaan dhigo iyo soomaaliga waayo af soomaaliga weligay saasa ugu fiicnaa saasaan carruurtii 21 Oktoobar u dhigay waxaan dhigay galaaska 3aad waxaa u dhigay galaaska 4aad haddana galaaska 5aad haddana galaaska 6aad intaas ayaan dhigay 7aad iyo 8aad la iima geynin 2 maalin aan galaaska 8aad u dhigay oo la rabay inaan maxay tahay af soomaaligooda maaragta xogaa af soomaali u shaqeey bas markaan soo dhamaystay xamraa ku soo noqonay markaan ku soo noqonay imtixaanka jaamacadda aan galay imtixaanka jaamacadda markii aan galana waxay noqotay 5,000 oo arday ayaa xilligaas soo qalin jabisay dugsiyada sare 5,000 oo arday capacity-ga ama awoodda ay leedahay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waxay ahayd 1,200 oo arday 1,200 oo arday ka badan ma qaadi karin soo 5,000 oo arday oo aan soo gudubnay wasaaradda macnaha tacliinta sare u gudbayna jaamacadda wasaaradda tacliinta sare hoos timaada wayna qaadi weysay marka aniga waxaan rabay jaamacadda medicine waxaan rabay inaan dhakhtar noqdo wariyanimadan iyo waxaan hadda aan ku jiro dhammaan rabin marka medicinadii iyo wixii waa waayay mar dambe ayaa waxaa helay jaamacadda oo waxaa helay dhaqaalaha maadaama aanan xisaab ku fiicnayn dhaqaalaha maan rabin waa iska dhaaf dadka familkayga waxay isku dayeen inay hindiya ii diraan markaas waaye marka la ii samaynayo teesaraha oo munishibiyo teesaraha munishibiyo dowladda hoose oo aqoonsiga waa waxa kaliya oo adeerkay faarax weeriye uu ii sameeyey sida markaas ay u yarayd ilma adeernimadan ku sheegaa annaga qoys ahaana ay qabyaalada noogu yareen adeerkay dhan oo aniga ila dhashay adeerkay aabahay ila dhashay halkaas wala xooyay sameeyay teesaraha waxaa xasuustaa oo hadda carab ku dhifanaa inkastoo wareysigeena ku jirin adeerkay xafiiskiisa waxaan kusoo salaamay maalintaas teesaraha la ii samaynayo oo xafiiska ku dhegan waaxda dhulbixinta madax ka ah Faysal Cali Waraabe hadda Soomaaliland oo xisbiga madaxda u ah ayaa ka ah adeer ahaan soo salaana faantu lisii waa xasuustaa aniga gabar walaashay isla socono adeer iska dhigay macal adeer xasa abshir kuntu magaalada ahaa adeerkay madaxa u ah ninka meesha dhan xukumaha adeer leen noo wada ahaayeen adeer abti eedo waxa nolosha noocaas ah walaalku soo koray oo aan carqalad lahayn oo aan waxa lahayn ka bacdiina adigu jaamacadii way isu dhiibeen jaamacadii waa waaye tii haddana aan rabay hindiya waa waaye
jaamacad kala helay midii aan helay lacagtii waa igu farabadatay adigu waxyaabo badan isu kay dhiibtay ilaa aan Yurub ka imaado horta markaan Nairobi imaado ayaan waxaan dhigtay xogaa yar koorsooyina laakiin Yurub markaa imid ayaa waxaan dhigtay psychology iyo criminology marka sidaas aan waxbarashada ku dhamaystay laakiin hool waxbarashadayda waxa abaal uga hayaa wadankayga Soomaaliya because wadankan markaa imid lacagtayda wax ku baranay laakiin wadankayga Soomaaliya free aan wax ku baranay haye aad u mahadsan tahay lama soo koobi karo run ahaantii dawadayaasha aan u sheegayaa Aamina xogta ay nasiisay mar raba lama soo koobi karo caawa waxay noo cadaysay adduunka maashihii ugu markii ay timid laba ruux ugu horeeyay inay ahaayeen islaan Chinese iyo islaan Soomaaliya kaafiya kala dheeri waadi aad laba waxa kale caawa inoo sheegtay madaxweynaha waddanka Soomaaliya in ay isgalaas ahaayeen isgalaas ma ahayn laba kalaas ahayn oo isku level kalaaska kale ayuu asaga ahaa anna kalaaskana ahaa laakiin isku mid ah isku looga aad u maasanta ay isku gahaayeen waxa kale oo noo sheegtay caawa Aamina inay askariya tahay u maasan tahay wariyinimo lagu soo bartay inay askarinimo tababaran tahay iyana dadka waanu sheegaynaa Aamina way tababaran tahay iska ilaaliya sidoo kale waa macalimad wariyinimo baad ku taqaaneen Aamina sidoo kale waa macalimad aad iyo aad baad u mahadsan tahay qodobada muhiimka iyo taariikhda aan marraba la ilaabi karin ee waddanka Soomaaliya u soo qabatay dawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasta nagala socotaan iyo si kasta oo nala socotaan ba waxaan idin leenahay habeen wanaagsan halkani waa Cawayska Xigan iyo waraysi Aamina Muuse Weheliye sidaanu horeyba hordhaca inta gadaal kaga soo biirta aanu idinku sheegnay qodobada caawa waxay ka kooban yihiin waa habeenkii taariikhda ahaa kooda Luulyo waa inoo soo socdaa barnaamijkuna wuxuu ku bilowday in aad ogaataan horta qofka alla waraysan haya yuu yahay waxaan filayaa waxa ay ka sheegtay kooda Luulyo waxa idinkaga filan ba marxaladii ay Aamina Muuse Weheliye ay wadankeeda u soo martay kooda Luulyo markaas ay idin dhamaysaa macnaha ay leedahay oo iyadana ka waraysan doono sidoo kale wadiniyadu waxay tahay waxa Aamina Muuse Weheliye waraysan doontaan qodobka halgamay qalbi dhagax marka la gaaro oo barnaamijkeena caawa isaguna kamid ah qodob kale soo socda saddexaad ee ugu dambeeyay wuxuu yahay marin hawaaminta bulshada Soomaaliyeed biyahan dambe lala maagan yahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin meel kasta oo nagala socotaan iyo si kasta oo noola socotaanba waa Aamina Muuse Weheliye iyo saaxiibkiin Cabdinuur Cabdullaahi Xaaji magac kale oo la qarinayana aad u taqaaneen balse Aamina Muuse Weheliye ayaa caawa qaadatay waa askari aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawadayaal iyo mudanayaalba Aaminay waa kooda Luulyo caawa waxaan filayaa meel walba waa laga damaashaadaya adduunka meel walba waa habeenkii ummadda Soomaaliyeed anaga waliba China baanu helay Canada nu joognaa maalinta ay Canada xorriyadda qaadatay iyo maalinta ay Soomaaliya qaadatay labadaba waa kooda Luulyo isku soo aadayna okay yaa farbadan isku haagay waxaan filayaa calankii Soomaaliya iyo kii Canada maanta way saddex socdaan aad iyo aad bay moodaa in bulshada Soomaaliyeed ay u wada diyaar garoobayaan ummadda Soomaaliyeed maxaa caawa halkan hambalyada adigoo Chinese ka faa'iideysanaya oo horreyn xarunay okay horta annagu xirnimo marna la siiyay xirnimadii sidii naloo siiyay ayaan ugu dhaganahay horta haddaan runta kuu sheego aniga qalbiyan ma jecli inaan dadka feelingkooda qariyo ama dareenkooda qariyo ma ihi haddaan qalbiyan kuu sheego anigu dabaaldeg fara badan kuma jiro caawa sababtu waxa ay tahay bilniya ma dareemayo wax badan oo loo dabaaldego waa qalbi jabsanahay taytarka kuu qoran meesha kuu qoran iyo dharkaagu labadaba waa buluug ha macnaha macnaha waa niyad jabsanahay waxaan noo niyad jabsanahay wax kale ma ahan xornimo xataa inaan xornimo haysano ma u malaynaayo ila ma aha weli macnaha si toosan looma dhihin ku soo dhawaada wadanka hebel hadda kadib waxay tahay xormatiina hebel baa idin haysta laakiin wax xorniyada oo badan ma haysano bad laakiin technically iyo farsamada ahaanta kore markaan fiirino waa maalintii xorriyadda aan qaadanay maanta keliyana sooma bilaabanayna ilaa 26 Juun ayaan xornimada qaadanay ayay maalintii ugu horreysay oo calan Soomaaliyeed laga taago ciid Soomaaliyeed oo xor ah waay oo xor ah ayaa lagu darayaa maalintaas waayo calanka markii la sii sameeyay iyo istiqaalada markii la gelinayo iyo way ka horreysay 60kii
saas laadiga qaranka qaramada midoobay iyo kii talyaaniga iyo ingiriiska laga dhinac taaga calankan laakiin markii ugu horreysay ciid Soomaaliyeed oo xira laga taago ayay ahayd 26 Juun hadda waa 1 Luulyo 27 Juun waxa soo qaatay walaalaha Jabuuti xorriyadooda marka waa maalmihii xorriyada way tahay inaan dabaaldegno bal laakiin dabaaldeg weyn oo isu kala jeexno aniga aamin ahaan shakhsi ahaan iyo niyad ahaan iyo qalbi ahaan أنا حلقان كوشة صومري أو حلقان كوشة صومها مرة أها شخص جارة أو نعب هاي لكن جود أهم مركات فيرسو بحنا من السنة هاي ضد الله هاي استينانه مسكحين نوم فيوبا ضد نم النوم فيوبا عقل النوم فيوبا فكر حرام ما هاي سنة وحبا ما هاي سنة دولة نمدة إنه أردن دوشة لقى معمولة إنه جيبان عقا كتاقنين shan Soomaaliyeed aan isu raadina iska dhaafay xabadii baan luminaynaa marka dabaaldeg badan xageey kuma jiro but like anyway waa 1 July waa 1 July ama Premier Luulyo way tahay waa maalin qaran waa maalintii ay qaadatay xorriyadda gobolada koonfureed ay qaateen iyo midowgii gobolada koonfureed iyo gobolada waqooyi oo hadda baaba'ay oo aan technically jirin oo walaaladan ay maqan yihiin oo si loo soo celiyo aan la aqoon oo falkoodii lagu jirin marka horta aniga feelingkayga kaaga hadlaya aniga shakhsi ahay muwaadin aan ahay siyaasi mihi diplomat mihi waxba mihi laakiin muwaadin aan ahay suxufina waa ahay suxufi maadaama aan ahana taas ayaa waxay siinaysaa awoodda afraad oo wadankayga inaan ahay waxaan ahay the fourth power of my country so that the fourth power of my country and nation maadaama aan ahay aniga wax badan oo hadda aan ku dabaaldego ima muuqdaan bad laakiin hambalyaa leeyahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan haddaad baxornahay oon baxornahay waa idinkugu hambaleynayaa haddii saxafladaha la dhigaayo ay tahay maanta ma aragtay iska soo shaaho cunno iska soo cuno halkaas soo boodboodo hadday tahay waa gooni laakiin inkastoon xorriyadii si rasmiyana looga xayuubin laakiin dad la haystaan nahay dad wadankooda waxa ka socda xataa xukumi karana ma nihin haddii aan kaa dhex galo dadka Soomaaliyeed inta badan waana la haystaa bale wax weyn oo haystana lama arko waxaad u sheegi kartaa oo pointigaas la naga haystaa oo kartaa ma jirtaa okay horta koow waxa laga haystaa maadaama aadan lahayn dhaqaale aad soo saarata adiga oo kugu filan oo aad gacan hoorsi tahay waxa ku haysta dadka liira donorska sida ay rabaanna waa inaad yeeshaa barajatooyinka iyo mashaariicda ay wataan xilligay rabaan ay ku darsadaan magaalada Muqdisho waxa ku taala soono aan la gelin wax ka soo dagaay iyo wax dhex galay iyo waxay ku sugan tahay aan la ogeyn oo la yiraahdo xalane waa dugsiga tababarka xalane oo aniga aan soo maray shaqadeedii qaranka la igu soo tababaray markaas oo madax ka ahaayeen aadan gabiyo Allah u naxariistay iyo sanbalulshe oo labadoodaba dhintay general iyo general ku xigan ka ahaayeen dugsigaas iyo xiradaas xalane lama yaqaan wax ku jiro documentary badan waa laga sameeyay dad kale suxufiyiin ah oo xil qaama ka sameeyay okay wadanka sida la rabo in la yeelo 4.5 ka wadanka lagu kala qaybiyay qabyaalada annagoo awalba qabiilistayaal ahay qabyaalada nagu sii qasbay waa lagu keenay waa lagu soo dhoofiyay ilaa iyo hadda wadanka waa la isku diraa madaxa dadka la isu geliyaa madaxdaadu xor ma aha wixii dhex la dhahay dhahaya wixii did la dhahay diidayaan ayaga controversy isku sameynaya iska hor imaanaya ilaahay kuma samadiide diiniyan ayaa inta qabiilo shaarar diimeed loo soo hoogiyay ayaa shakhsiyadan dhahay sorry shakhsiyada shaarar diimeed loo soo hoogiyay lagu beeray adiga oo muslima oo sunni ah ayaa 12 fidqa laga waxay maanta waxa arkay news ah is maaragta oo ku dishay IS oo ku dishay maxay tahay laba qof xamar inta nooga imaatay ilaahay baa riwaaya is inta nooga imaadeen IS iyo anaga shaqadeena miyaan muslimiin sunni oo iska caadiya oo salaadooda dukato oo soonkooda soonta ayaa ahayna xagee is nooga timid argagixisa lagu beeray iyadaan argagixisa wadanka joogin ayaa siyaasi waalan oo lacag soo qaato wuxuu yiri argagixiso waa xasuustaa BBC u shaqeynaa maalintii ugu horeysay oo la yiri al-qaacida joogta Soomaaliya suxufi saanahan ahay oo BBC u shaqeynaa ma fahamta laba nin oo siyaasiyiin ah yiri ilama inta la baxay dad Soomaaliyeed oo degan meeshii isha hadda Puntland meesha ka tirsantaa talo meesha magaceedu maxay
dameerana ma hayna war xagga maxay ahayd lagu durduriyaa lagu durduriyaa Soomaaliya garan marka dad maskaxda laga haysto fiiri haddii maskaxda laga haysto haysasho kuma dhinna walaalo xirmatiid kol haddii maskaxda laga qabsado maskaxda ogow waa xubinta ugu muhiimsan oo jirkaaga dadku wadnahay dhahaan laakiin maaha qofka maskaxda markuu ka dhinto waa dhimana waa brain dead laakiin qofka markuu wadnaha la yahay caaga loo gelina inta ka shawita lagu dhuujina inta wax loo sameeyna waa si noolaa kara nafta waa si jaqaaqi kara laakiin marka maskaxda laga haysto you are nothing waxba ma tihid organki ugu muhiimsanaa ana laga haysta oo jirka fariimaha u dira maskaxdaada jirka iyada fariimaha u dirta ayada amar siisa markaad gaajoon tahay ayada ku tira waad gaajoon tahay markaad ciishoon tahay ayada ku tira waad ciishoon tahay warhooyga meesha ka kac markii aad rabto inaad oydaayada ku tira warheede wax lagu ooyaa ku soo weeraray oy markaad rabto inaad faraxdo iyo markaad wax jeceshahay oo jacayl baa kugu dhacay wax jeclaa oo qosolo baraare baaragta boodbood maskaxda amarka ku siinaysa laga haystaa markii maskaxda laga haysto walaal xirmateed waan gartay aad iyo aad baad u mahadsantahay Aamina Muuse Weheliye kooda Luulio caawa waxaan filaynaa ummad badan oo Soomaaliyeed sida hore u sheegtayba 26 June waxay ahayd maalintii gobolada waqooyiga Soomaaliya caawana waa habeenkii midowga iyo gobolada koonfurta waddanka Soomaaliya wali intii kalena suuti nasiib bay u heshay laakiin ogaadeen iyo FD wali halkoodii bay iyagu taagan yihiin waxaan filayaa insha Allah iyaguna kama ayna samrin in ay maalin oo loo dabaaldego hambaliyaan leenahay si doon xaaladdu ha ahaato si doon wax doon ha lagu sugnaado laakiin ummadda Soomaaliyeed qodobka kale inagoo u gudbi doona maxaad odhan lahayd waa lagu soo ceshan karaa sharaftii ummadda Soomaaliyeed hore ugu soo dabaaldegeen walaal horta sharaftu waxa lagu soo ceshan karaa horta u malayn maayo inaan noo dhowdahay lama soo ceshan karo ma ku oranaya laakiin inay noo dhowdahay inaan sharaf soo ceshano laakiin sharaftu waxa lagu soo ceshan karaa ma aha madaxda waddanka ma aha wax sharaftu soo celi karo waa dadka dadweynaha inay dantooda gartaan qaybi oo xukunka lagu haayo oo qabyaalada tiirka looga dhigayo inay fahmaan aniga markaan qalbi dhagax u hadlo dad baa igu weeraraya oo ilaha way ugu hadlaysaa ninka daarood runban ku sheegay caawa run la soo sheegaya mid kale anigu fursadaha noocan oo kale aniga lagu wareysto ma helo Cabdinuur soo fursadda aniga caawa isiisay ayaaba weyn ana baaba la idinka gacaya maxaa yeelay mar walba ana wax wareysta anigu la wareysta badan ama noqdo dad baa igu lahaa ninka daarood maxaad ugu doodaysaa anuu Cabdikariin waxaan u arkay inuu yahay shakhsi Soomaaliyeed oo jabhadda ONLF ka tirsan wuxuu ahaa askari u dagaalamay 1977 markii aniga iyo madaxweyne Farmaajo iyo dad kale aanu iskuulkii kowda luuliyay dhiganayn asagu dagaalka ku maqnaay sidaas lamida saraakiil badan dagaalka ku maqnaay okay illa ma dadka Soomaaliyeed qayb oo xukunta lagu haayo ay fahmaan oo ay israadsadaan hadda waa sahlan tahay in la israadsado maxaa yeelay adduunka tiknoolajiyadiisa ayaa sahlaysa in forums la samaysto oo la israadsado oo qofka uu ku fikir yahay oo uu wax la fulin karo oo raadsado qasab maaha malaayiin qof ina isu keento laakiin 10 qofba ku bilow 20 ba ku bilow waa in la helo dad Soomaalinimadu ay dhab ka tahay dad qarannimada ilaalinaya nimanka soo shaqo tagay ee ninka kale uu ka dambeeyay ee midka oo ka sii dambeeya ka sii xun yahay ee siyaasadda qabanaya dadkaasi hadday dadka ku soo biirayaan oo intay toobad keenaan qarannimada ilaalinaya ayagay jirtaa laakiin dadka aan weligood mansabka iyo xukunka qaban ayaan ka hadlaa aniga dadweynaha caadiga ah aniga adoo kaleeta ah waa inaan la dhihin kana ONLF waa inaan la dhihin kana maxay ahatoon Soomaalida Kenya ah waa inaan la dhihin kana Soomaalida Ethiopia mid kale horta kow saxaafadda aniga ay adigu aan kow kana u baahan inay wax saxdo dadkan dhagahooda waxay maqlaan bal u fiirso caawa haddaad aayad quraan aad shidato oo aayadda quraan aad dhageysato subaxii marka hurdada ka soo kacdo aayadda soo xasuusanay fiiriya caawada haddaa hees shidato oo aad heesta dhageysato subaxii marka soo kacdo maskaxdaada kow waxay soo qabanay heesti sidaas si lamid ah ayaa la rabaa horta eray bixinta ay saxaafaddu isticmaasho inay bedesho haddaad faahfaahi tiraahana waa faahfaahina si fiican faahfaahi baan ku leenahay aad baan u soo dhaweynaa bointiga eray bixinta ay saxaafaddu samayso saxaafadda indhaha iyo dadka ayadaa ah
ayada ayaa awooda ugu badan hadda haysata walaa baarlamaan walaa madaxweynayaal walaa maamul goboleedyo saxaafadda awooda ugu badan ayada haysata ayada wax sixi karta anisa ila tahay waxaa wax lagu sixi karaa horta waxaa la bedelayaa eray bixinaha aan isticmaalno maxaa kamid ah Soomaalida Itoobiya wax la yiraahdo ma jiraan Soomaali leh waay kililka shanaad ani buudankayga iyo gobolkayga iga maqnay waaye Soomaali galbeed la dhahaa Soomaalida Kenya waxaa la dhahaa Soomaalida bari Puntland ka soo bilow ilaa iyo intaan waxa waaye Soomaali koonfureed halkaas iyo waqooyiga waxa waaye Soomaali waqooyi Soomaalida Jabuutina waxa waaye Soomaalida waqooyiga fog shantaas u isticmaalayna Soomaalida waqooyiga fog Soomaalida waqooyi Soomaalida koonfureed Soomaali galbeed iyo Soomaali bari horta واي قرانك ألف وأحمال باء هوس كاله تأكر كلابله تأكر كسدح للجيم محانا لا صبر أو قرانك لا صبر لا قران ما هي يا قران ما ألف وأحمال قران ميان قران ما آيات بأس سماوي جالس ملك صوتك ألف وأحمال مكجرو أنا نولي مكجرته ما فهمت وحأقول جعلا أدوك وحأقول جعلا أنا نولي أنا ألف لما كردبا هنا لما حسدبا هنا لما كذا والله هذا صح شفتو وأنا فرحة المدين لكن هذا القرآن مكجرين أنا كذا أنا لقول بالله ويلقول بالله سببته وحواي القرآن كم بران كرتين هذا حافظين ألف بيت بلا في سوماليا برنا هذا ما في إنجليزي unless أكبرته A B C D E F G H ما بركرتين وحبة ما بركرتين my mom ما ديه كرتين my father ما ديه كرتين إلا أبرته صحافة مركب حالة قربها وحي هرا إسكيل لو هدا يكون سكول فرا أري بحين تهرت هلا بدله absolute من أري بحين هلا بدله ده كان قلبي قال لك حداي قف صومالي أيا إثيوبيان هنقول هدلايا بل أمورتن إيجا قف صومالي أيا كينيان هنقول هدلايا وريجا تجندها كده كينيان متي صومالي أتى صومالي نقول إثيوبيان متي صومالي إلى هذا لانيجا ولا شهر هاي ولا الكهان صومالي إلى هذا لانيجا ورشنتان Soomaaliyeed waliga soo imaan laakiin dadka harmonize loo sameeyo dadka qalbigooda qalbi wanaag dadka loo sameeyo saxaafadda ay bixinta habad gasho in la iibsado ha ka dagaalanto wargaajo loo dhiman maayo wala dhuubtaa dhiman maysid waad sa dhuuban waxay ku oole jirtay dugsiga tababarka maaragtay oo saraakiisha waxa ku oole jirtay dhulka habaryaasha saraakiil ah markaan booqdo dhulka markaa gasho waxa ku oole jirtay dhiman maysid waad sa dhuuban waxa laga wadaa iskoolka hadaa soo gasho sida lagu bursanayo biiti lagu ciyaarsiina waa shuuqeele laakiin ma dhimanaysid ma garat marka suxufiyiintu dhiman maysid waad sa dhuubane iska daaya laalush qaadashada iyo iibsashada dadkan saxa iskoolka dadka ma qabaan aad baan u maadsantahay waxaan filayaa waxa lambar 1 ka noqotay barnaamijka ummadda Soomaaliyeed sixitaankeeda voice su'aashi ahayd sidee lagaga bixi karaa dhibaatada taagan waxayba la noqotay laf dhabartu in ay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta ku xidha bulshada qaybaheeda kala duwan oo ah saxaafaddu in ay isugu noqoto bacdina ay ka soo bilowdo nidaamka saxaafadda iyo erebixidiisa iyo shanta Soomaaliyeed oo run ahaantii caawa aan filayo kuwa ina daawanaya iyo kuwa ina daawan doonaba in ay ugu filan tahay in ugu noqdeen wixii ay hor u yaqaaneen aanay in yarba ka dhacay oo wali pointigaas ah 2005 ayaa waxaan tii wadan daris la aha wadamada East Africa passport waxaan watay labada qolo midkooda exactly ka Ethiopia watay markaas aanikii wadankii aan tagay liyaa tahay markaas waxaan ahay Soomaali markaas ma Ethiopian baan ahay Soomaali baad ogtay markaas waxa uu dhahay xageed Soomaali baad ogtay adigu waxda la isku celin markaas Soomaali Ethiopia baan ahay markaas kala saar isma qabtaan labadaas ama Soomaali sheego ama Ethiopian sheego Soomaali Ethiopia waa laba barnaamij oo isgalaynin buu labada qolo mid uu sheego Soomaali baan hayde ama Ethiopia baan hay marka laba isla istul saari karo run ahaantii ma aha Soomaali Ethiopia iyo Soomaali Kenyan waxyaalahaasi ma aha waana erebixin aad u mahadsantahay caawa in aad sheegto bixintan caawa media iyo bulshada Soomaaliyeed ee halkan naga daawanaysa aad ugu soo gudbisay
waana ku mahadsantahay waxaana aad iyo aad daawadayaasha ugu boorigelinaya ama ugu dhiirigelinayaa in la qaato erebixinta noocaasa intaas haddii aan kaga gudubno qodobka luulyo oo caawa bulshada Soomaaliyeed aan soo qaadanay aan la qaybsanaynay qodobka labaad waxa weeyaan bulshadu aad iyo aad isu hadalay toddobaadkan loo hadalayo waa halgamay Cabdikariim Sheekh Muuse oo muddo 10 bilood ah ku xidhnaa xarunta waddankaasi Ethiopia Addis Ababa lagana soo dhiibay caasimadda waddanka Soomaaliya Muqdisho Cabdikariim iyo markii la soo qabtay hadal hayntiisu aad u fara badan ama dad aan idhaahdo isaga dareenkiisa ama siyaasadda ama boorsiga uu markaasi watay ogaa way yaqaaneen in uu yahay nin geesi ah in uu yahay haliyey Soomaaliyeed in uu yahay ninka Ethiopiaanku ay qalbi dhagax u bixiyeen markay wax walba ku sameeyeen inuuna tanaasulayn laakiin Soomaalidu xilli dhooyay ogaatay Cabdikariim waxa uu yahay ama inuu yahay qalbi dhagax ama halgamaa Soomaaliyeed Cabdikariim taniya maalintii Addis Ababa laga soo dejiyay hawsha way sii badatay maanta ugu dambeysay hawsha aad bay u taagan tahay waxaad tahay journalist waxaad u gudubtay baare East Africa waxaad si dhib yar u heli kartaa xogaha ama xogta xaqiiqada ah lagu qiimeeyo baltaniyo xilliga ay bilaabatay hawshan ilaha rasmiga ah ay ka soo fushay fikirkan Cabdikariim loo dhiibo laatan maanta taagan waxaan jecelahay balcaawi inaad la wadaagtid wadayaasheena silsiladu siday isugu xidhnayd adigu oo ku keenaya ninkan aad moodo inuu yahay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya ee leeyahay waa safiirka Ethiopia hadalkiisii run ahaantii beesha walba oo dhageystay uu yaabay intii biyo qaranka Soomaaliya intuu soo fadhiistay inuu isaga uu ka hadlo sida afhayeenka inuu yahay afhayeenku waa arrin aad iyo aad bulshada isu weydiisay bal arrintaas adiga oo 1 2 3 5 u wada hawshan ku bilaabatay afhayeenka caawa halka uu la soo taagay hadalka horta Cabdikariim ka bilaabaya walaalkay sida loo dhiibay Cabdikariim waddanka wax badan ku noolaay sidaan sheegayay hadda ay sheegay askari soo halgamay oo dagaalkii 77 ka qayb galay asoo ciidamada Soomaaliya ka tirsan ayuu ka qayb galay xitaa sarkaala ka qayb galay 1977 annagu ciyaal ahayn iskool dhiganeen anyway Cabdikariim dadka waa ku noolaa madaxweynayaal soo maray madaxweyne ku meel gaara waxa soo maray madaxweyne kaleeto oo ku meel gaarkii looga baxay Xasan Sheekh waddanka waa jooga Cabdikariim lana qabamaynin taas oo mid waxaan rabaa marka wax yar inaan dul maro timeline la dhahaa timeline hada Facebook marka furno kale timeline la dhahaa marka Facebook soo gashay ilaa iyo maanta waxaad qorayso timeline-kii Cabdikariim ayaa rabaa sida xogta aniga aan ku hayo inaan korka ka maro xogta xaqiiqada ee waxa waaye dawladda Soomaaliya 28 bishii August sanadkii hore ee 2017 ayay dhiibtay Cabdikariim markay dhiibaysay kumay dhiibin qaab sharci ah waxay ku dhiibtay qaab afduub ah ayaa lagu dhiibay ma jirin warqad waarana oo lagu soo xiro ma jirin maxay ahayd tan warqad maxkamad ka soo baxday because warqadda markay waaran tahay oo inay maxkamad ka soo baxdo oo sharciyo oo xaakim soo saxiixa waay ma aynan jirin waxa soo dhan sidii lagu xiray warqad ma jirin waxa ma jirin sharci lama soo marsin qaab ciyaala suuqnimo iyo afduub camal ah ayaa lagu xiray dawladda Soomaaliya ku xirtay wax codsi ah oo rasmi ah oo dawladda Ethiopia ka yimid ma jiro laakiin waxa jiray xogo hoose ee shakhsiyaad rabay inay Cabdikariim iibsadaan lacag ka baxsan isu dhiibaan maadaama dawladda Ethiopia ayna gooni wax u codsan warqad lagu soo eedeeyo oo lagu soo xirana aynan jirin saas darteed wax la yiraahdo maxkamad iyo eedayn ma jirin markii Ethiopia la geeyay prosecution muu dhicin dacwad laguma oogin waddanka sharciga sidiisaba ama Europe ha ahaado ama America ha ahaado waxa sharcigu waa A B C D E F Y qofka marka la xiraayo waa inuu jiro charge wax in lagu charge gareeyo waxaan samayso xuquuqdiisa loo aqriyo qab waa la xiro qofka ma la xiro marka la xiraayo qofka waa inuu jiro haddii gurigiisa la baarayo haddii handidiisa loo dhacayo la baarayana waa inuu waareen jiro gurigiisa kama soo geli karto okay intaas markay dhacdo ka bacdi oo lagu xiro oo meeshii lagu waday lagu gudbiyo waa in prosecution uu dhaco
وإن عدي دعوة كوقبت كسوحرة أي دعوة كسوقت إياك مركي أي حرة يا وديبة يا وحيدهن عبد الكريم وانين أرجع حساء أو شباب تاجرة وحيكون شيء أنا أرجع حساء أو أنا لفنا وحيكون شيء أنا عبد الكريم كنت سنة أرجع حساء إنه له والكودي صحافته كجرة ما ننكر كلام نبي بابحنا ما الله به كلام وزيركي ورفافنت حلقة سو هذا يوريسو وسو استاجا ساسو نشان عبد الكريم سيدا سالك ديبا markii Ethiopia la geeyay dawladda Ethiopia xabsi ma aanan geen عبد الكريم sidaan filaaya aniga waxa la galiyay xabsi guri meel ay dhaqdhaqaaqiisu xukuman yahay oo xabsi rasmi lama geeyay sababtu waxay tahay qofka markii xabsi la geeyo waa in la qaado hadana maxkamad la geeyo hadana la xukumo ninkan oo ana laf ka tirsan yahay oo ana lafna waa jabhadaha ugu waaweyn ka tirsan tahay oo gumaysiga Ethiopia ka soo horjeedo saas la ajliga la iska ma xiran karo إذا أن هدي اللي حيرنا محكمة وإلا سوت هذا دي ما يدعي كوي ديبي هل كان باقل كغفر ما يقولون سيدي حرا ولا ما يقول كونتاكتس كي وحي أي كل ديبان عبد الكريم قلقل على الجدية بيكوس ضد بدن أو شرعي جاي قانا صباحي شرعنا يقول إنكم ما يديبان شرعي ضرر وحي كل ديبان دولة دي تابع حبسنا مجين محكمتنا مجين ميل سيف هاوس لنا هاي الجلسة عبد الكريم يا أنا بتسوق إثيوبيا إليهن كذب دقائق إثيوبيا كالسعودة أيها أساسات ترى إثيوبيا دقائق بدن أيها كالسعودة دقائق بدن أيها كالسعودة دقائق يبحوا جارة مال حلو جارة اللي سكود دل جارة إلا بنا بحي جوكسون وين جارة دقائق يا صوف دقائق مركو صوف في ما شقر سودي أو وجرة ما حد دال ولا مركب عدة كريه أو دال صحة ودي وحوايا reerka qalbi dhagax ka dhasho qaraabadiisa cid kaliya oo dadaal sax ah Cabdi Kariim in lagu soo dayay wada cidaas ay ahay okay qaraabadii waa dadaaleen aad iyo aad ay u dadaaleen waxa kale oo iyagana hadlay hay-adaha xuquuqul insaanka Amnesty Human Rights Watch waxa soo dhana hadleen sababtu waxa ay tahay hadalka daciifka ee dawladii dhiibtay ay ku dooday oo ahaa inuu argagixisay yahay ما ينجرين ما لو أرجع حسك ياهي واي أو أنا لف وكتر سنة أو أنا لف وح أرجع حس اللي جاي يقين جودها إثيوبيا بس لكن دي بدل لغة ما أقولن وده كان إنجليز كلغة ما يقان أمريكا لغة ما يقان مال لغة يقان ماله ساس لا أدري ذا وحي وافش المال رئيس الوزراء عصب مركي وإماري حكمك وهذا دوء waxay codsadeen dawladda Soomaaliya waxay isku dayday in qalbi dhagax ay kala soo celiyo maadaama ay ka dhiibeen laakiin meesha waxa ku jira hirti sharciya ku jira hirti sharciya sirtinay meesha koow horta adoo dawlad ee adaa sharciga ah sharci marka adiga tahay waxa laga rabaa on the book ina raacdo wixii book ku qoran oo sharciga ay qoran ina raacdo nin jeclaysiyo mooryaanaysiyo maxay heetoonay يا السوق نمية قفنا أفضوبة إيه وحس مجرى أدو الدولة وح ما أفضوبة كده فلاقة وح أفضوبة هذه فلاقة متي عيبتي إيه أساس نحن وقفنا إيه تو حيدا معيني عبد الكريم سؤاليان عبد الكريم محشيك سؤالنا يمك كو حيدا وأرجع العسو لبا وحيدا هن محيط الشباب وطاقرة صدح يجا أو قعنت كوهايا يجو ما يحرن ويحرن كرين هذا يجو دعوة قبل هذا الشباب الكو أجروا شباب يهن meeqa ayaa Kenya iyo u dhalatay iyo Zanzibar iyo Tanzania oo shabaab ka tirsan hadii la qabto dadka Soomaaliyeed maldiiba wala xira iyaga may xiran saas darteed waa kala hadleen because wax sharci kuma socdaan waxay isku dayeen in loo soo celiyo leeyin soo celin ma baad leeyahay waayo idinka ma ninkan waxa waay anaa noo soo dhiibtaan anaa go'aan ka gaarayna hadii loo soo celiyana waa diri lahaayeen ma ahane weligood may dhaafeen never ever مو النولادين عبد الكريم ما انت حق الله كانوا ليه اوكي وحي هذا اسكو ضيان العقب بحيان ادك اني اوغادان ماشي عبد الكريم كجرو سيف هاوسكي عبد الكريم يسو اوغاد I don't know وحي سمير ربين لكن سيف هاوسكي اني يسو اوغادان اسكو ضيان تينو مسورته كده ولا قرش بس قرابديسي ايا ودنك لا جوغا اسبدل لنا ودنك waa ka dhacowhayaan waddanka ninka cusub imaanana fawda iyo buuq ma rabo inuu kiciyo waliba qoraamada iyo Soomaalida dad isku yara dhawaa wuxuu rabaa Soomaalida inuu aad u soo dhaweysto oo sokeeya ka dhigto rabaa soo ma doonayo mid kale qorshahan maanta lagu dhawaaqay oo ah oo ana la fi urur kale in argagixisadii looga saaray
argagixiso meesha qurahay ka ahayd Ethiopia ahayd idina in laga saaray maanta laga saaray wuu soo socday waa qorshe soo socda u ahaa waxa soo dhan ay ogaayeen dadkan way dawladda Soomaaliya oo shalay soo dhiibta marka oo tiri shabaab ka tirsan yahay oo tiri waa argagixiso ay ugu dhiibayaan marka uma dhiibin 19 bishii dhexaad oo sanadkan marka ciidamada nabadgelyada Ethiopia ciidamadii ayaa haddana safe house ka soo saareen meel kale geeyeen meel kale markay geeyeen waxay u ogolaadeen qaraabadiisa inta ugu badan iyo qori xuquuqda insaanka inay arkaan Cabdikariim wayna arkeen waxayna ku wargeliyeen in si degdeg ah Cabdikariim loo sii dayn doono waa 19 bisha oo hadda maanta kooda luuli caawa dhalanayso maanta waa 30 oo malayna samaha waa 30 June waa 30 maanta waxay sheegtay markaa dawladda Ethiopia inuu sharci darro ku xiran yahay lana sii dayn doono qalbiga u qaboojisay dawladdeena maalinta arbacada oo 19 ku xigta oo 20 bisha ay waxay ka war heleen sii daynta qalbi dhagaxida sii daynaa waxay codsadeen in la sii dayn hadana iyaga markii la soo dhiibida diiday loo diiday oo waxay bilaabatay in la sii dayn markaasuu ku fadeexoobayaan maadaama ay markii hore argagixiso waaya dhaheen in la sii dayn dawladda Ethiopia waxay dawladda Soomaaliya u sheegtay in ONLF oo ka tirsan yahay Cabdikariim ONLF-na ayna argagixiso ahayn wagana saarayaba liiska argagixisada saas la ajligeedna wadanka isbedel badan laga rabo wadankooda ay xukunkooda ku ekaadaan laakiin wadanka Ethiopia iyo waxay qabanayso Ethiopia iyo sida dad yeelayso inay shaqo ku lahayn none of your business also dhahay Addis Ababa dhowr qof ayaa isaga daba noqday بريه دمبه كوان أغنهاي ولا شاعي أو مدحض واوينه إيه كوانا نوغين با إنتاس وحي إسكاقا دبن نقونايا وحي أغوين وحي آيان قلب داقح إسي ديس مديس هدي لسي دين آيان إيه يكلقو سوى ريجيو هدي كلانا على لسي دينن وحي يودن وحاقين نقطة وقدام باستي قميستي كوية لبعتن كي بشا الدولة دي إثيوبيا وحي كوى راجسي عبدكريم قويس كيسا إيه هذه حقوق الآدمية سيدا بلانكو أها وحنا في العيا إن مقدو لسين دون عبدكريم أو دولة إثيوبيا وأقشا إن مقدو كبحيس أرنتاس فذي حداث أيها دعدة ولا لا مركا سوسو نقنو ورت الدولة نمدا مدام كدولة نمدا وشرعي سيستم وسيستم السنة أمير بوينتي أول أصلا نقولها إن أخيانك وحي من مركز دولة إثيوبيا بوينتي أول دم أخيانك دولة إثيوبيا شرعي الصومالية برلمان كاجو أمضوا صاري تريديكشن كده هي ألها دولة برلمان كي وزير قولها وزير هذا إيوه شيء شديد ما عديتي وجود بيسي مدحوينها الصومالية ويجوان كفر أحسن هاي فكرة كي بد الصومالي برلمان كيجارين ونوصل نقول هنا حجاب وكسوق علي سفير كإثيوبيا برنامج كان حلب حي وكسوق علي نوع القرية لير أنا كواعي بيسنة هذا كان وذايا واي هوست إسكال حريرة نوع القرية أشاغو نفتر كيسو من سفير نبدا سفير عنو قلتها ببران معها because ما أنت ما هاي سفيرة وحوها spokesperson of the Somali government يوها أفيان دولة وحق لوها ما أنت إيمانو هاي سفير وحتى حيلكي لاسا مقعد كمو سنة كيسان أو مانو جوجنة وحو طلابة إنو أفيان دولة نقد الصومالي أو فضيحيسان أو عيبايسان كوست وحي ما أنت وحو واحد لو حوال عوداي ربنا بنانك وصبحان وكودو لولو دبالدقان فضيحة دي وجهودي وجحمدودي إن كاميرين وقبطان درادة كالنا كسي هربر Somali way Somali doctor wuxuu sheegay laakiin aniga tumi haday tahay nin Somali aniga inuu Ethiopia iga noqdo safir mugo hore warqadaha kama aqbaleenba aniga tayda haday tahay magaciisa okay waan afhayeen ahaan ayo nimankaan ugu hadlay iyo wadaay ahaan ceeb iyo dhamiisho lagu dhagan naga fuji waay maaha wax sharci ma hatta waxa dawladda Ethiopia ku qabsan kartaa inuu Soomaalida dawladda Soomaaliya oo qalbi dhagax ka hadleen inuu asaga ka hadlo حتى دولة إثيوبيا الشرعية وقف سكرتها أصلا. دولة إثيوبيا وقف سكرت. حكومة اللوحة وين صوماليا وحى عايزه إسكاسو دبر عايزه مرة كذا بس إني وبكو سيد عايزه أما بدي أكون عايزه حتى هذا الكيس هذا بإنه يحب نقونايو أما يهرب وقدر أيوه نين كان ساق وحوس له حاجاتي بل أنتي وبكو سيد عايز
كسي درها وسكي دبي maxaa koos gareynaya erayada barnaamijyada iska hor imaatinka noocaas ah horta walaalo meel naga soo habaana ma aqaano kow horta habaar guudna waa iska kaaya haysta laakiin waxaad ogaataa waxa la yiraahdaa ardagii alif ka wareera albaqra kama tooso Soomaalida ku mahmaahad alif ardagii ka wareera albaqra kama tooso waxa waaye waxaan fakta hore soo wareereen adigoo dawladda markaad muwaadin Soomaali ah oo intaasoo sano Soomaali aha oo intaasoo sano wadanka ku noolaa markaad gangis inta noqoto burcad inta noqoto aad indhaha macaawis uga irto oo aad fardayso oo aad gabagabayso oo aad hirdidig ku wacayso oo aad jirdisho oo aad u dhaqanto sidii gangiska filimada laga fiirsanayo oo aad dhiibto oo dad cadawa u gacan geliso iyagu hadda markii loo dhiibayeen Ethiopia Cabdikariim ma waxay filaayeen in isbaal la geeyo oo masaaj loo sameeyo Cabdikariim masaaj filaayeen do they think in Cabdikariim masaaj loo sameeyo oo la geynayo meel beautiful ah oo qurxan oo isbaal loo sameeyo ma dhiibin waxay u dhiibeen in la jirdilo oo la silciyo oo la waxeeyo waxbayna ku bedelanayeen Soomaaliya garan wixii ay ku bedelaan Ilaahay ba ninkaas naftiisii Ilaahay ba badbaadiyo Ilaahay badbaadiyaha ugu horeeya ah ma garatay Allah u qorin inay sida iyagu rabeen uu ku baxo mid kale dada waxay ku doodayaan ninka Etoobiyaanka war qof Soomaaliya aniga ma bala dhihi karaba absolutamente Etoobiyaan waa qofka Soomaaliga Soomaali waa Etoobiyaan ma ah aniga Ingiriisan jooga I never be English aniga Ingiriis ma noqonaay waan gartay hor imaatinka marka sharciyada baarlamaanka hore bay u sheegeen in wada qalad lagu dhiibay Cabdikariim oo walaabna beesha caalamku ayna u aqoonsanayn dil xukuumadda Soomaaliya kama ayna hadal qofkii noocaas ah maxay tahay sababta ay uga aamusan tahay markaa waxay sheegaan ilaa way soo toosayaan cawadaha soo dabaaldegaan horta arkaaye dhowr bari sug horta dadkii hadli jira weligood waa hadleen xildhibaanada ninka u doodo jira weligood waa u doodeen aniga waa u doodeen waxa aniga kula hadlaayo oo fikirkayga ku sheegaya dadkan waxa waaye inta isku xirani wax la isla ogyahay rabaan inay dhaxaan ma rabaan wax la isla ogaan inay dhaxaan Soomaaliya ka darayaan maxay tahay wixiina uu ka darayaan wixii la filayo wax ka xun horta kii ay soo dirsadeen maanta oo dhagta ugu sheegan oo saaxiib oo naga qaleen noo ceeb qare ay dhaheen oo safiirka Ethiopia u ahaa horta tii dheerad u dhex fadhisay dhaqadii hore dhaqa ka badanna waa lugaha u galiyay say uga bixi doonaan horta aniga ma aqaano oo aniga uu ku baalamiyo awshood kuma jiro laakiin ceeb weyn baa meesha taala ma garatay ceebtaanuna goorta inay imaanayso waan ogaa anigu wareysideedii muuqaaladeeda hore hadaa daawateen si sharciga uga hadla baarlamaankana waxaan ka codsaday inay iyagu yihiin sharci dejiyayaashii laakiin walaalo ninkii wuxuu yiri maxaa laga soo helay buur bariba waa dhumiyay mid kale Soomaalida inaad tusaalayso meesha kale wuxuu ma fahmayaan abo macaan anigu ma aflagaadeeyo mana raba aflagaadana ma waxba aflagaadeeyo laakiin runta wax ka sheegan xawayaanka la yiraahdo faraska baqalka xawayaanka la yiraahdo anoo ilmaah ayaa waxa arki jira asagoo gaari lagu saaro burka aabay foornada oo burka u keenay jira burka noo keenay jira baqal way wata baqalka marka waa cad yahay waa qurux badan yahay hadaa aragto faras oo weegiya hooyan weydii waxa rahay kan maxal daa baqal la dhahay waxna ma dhalo wixii waa soo weynaa dhowr sano ay u socoto baqal maxaa laga wadaa adigu baqalkii baan mashquul ku noqday waxaan soo ogaaday baqalka inay faras iyo dameer iska dhaleen faras iyo dameer baqalka iska dhaleen saaso naftina waa ku jirtaa waa xawayaan waa la mutafacsana laakiin asagu qoys baqaleed ma jiro waa faras iyo dameer maalintay kulmaan oo alla isku aadi oo hadana oo kulankaas oo wax ka dhashaan waa baqal dhalaha aniga aflagaada arintan kama wado in aflagaada la iga qaatana mar laakiin aniga waxaan u maleeynaa dawladeenu waa baqal meel loo raaco ilaahay idankiisa meel loo raaco oo ilaahay uuntay male maalintaad istiraah warqaladkii dhooqaday ka bixi doonaan tiitu ka daranay gelin joog waa dhex fadhidaa bal adigu kaalayo badbaadi dawladan oo 24 hours qalad ku jirto oo hadaa qalad xagga sharciga ku jirto madaxweynihii maalintii koow la doorto hadaa xasuusato labada dhinac waxa ka doonay labadii madaxweyne oo xulka isaga horeeyay oo hadaa asaga la tartama laakiin hadda luus gareey oo saaraay labadii inta taagan wuxuu leeyahay 27 sano waa markii ugu horeysay oo dawlad wadanka oo yeesho kulaha
hadda labadii yaa joogaaday labadii madaxweyne xukunka isaga dambeeyay kii hadda oo ka dhacay hadda ku wareejiyaa jooga adhinacan ka taagaya kii kale war nooman noola oo haddii waa madaxdeen waa hadlee la dhaho hadalkii masaxaayo oo haddii la dhaho waxbaa la xukumaa maalin walba qalad aa lagu jiraa dastuuri ah aa lagu jiraa oo haddii la dhaho inta u kac waa qalad kale walaalow dowladdii waa dowladdii baqasho ahayd bal cawada hadalkaas iga qor okay aamina waxaa jirtoo kale dowladda soomaaliya haddii aamustana dowladda soomaaliya waxaa lagu haystay beriga dhaweyd beri dhexdii ahayd qalbi dhex markii leedhi dowladdu may hadasho way aamustay ma la dhihi karaa shacabka soomaaliyeed qudhiisi waa balaayo kale dowladdii hadday aamusto aamuskii looma ogolo hadday hadlaan waxaa ka daran madaxweynihiin markii la weydiiyey maba ogiyo dhahay war waddanka dhan waxa ka dhacaaya maadan ogeyn nin dhanaa la xambaartay nin dhan oo intaas sana waddan ku noolaa ayaa macaawis looga xiro oo la jukajukeeyey la qaaday asaa waddanka etoobiya loo celiyo si loo dilo ama loo xiro ama tii dheerad loogu dhigo maba ogiyu dhahay maba ogi amina waxaad maxaa iloobin meesha ku darsan ninkani hadduu yidhaha waan ogahay hadal bay dhihi soomaalidii hadduu hadlana hadalkii dhub ugu geliyey ma la dhihi karaa ummadda soomaaliyeed baa jiif iyo joog midna u ogolay nimankano aamus ooma ogolo ogitaan ooma ogolo wax tallaabadii la qaadaba waa sidii ninkii yidhi oo kale haddii aan hadlana waa afsalax ku dhagiya haddii aan ka aamusano agoonta maxay arigeeda waa ina xaga dheera sheekadiisii markii uu yidhi soomaalida wax yar ma u sheegaa ina xaga dheera sheekadiisi si fiican soomaaliya ina xaga dheera nin la yiraahdo jiro horta ninkaas doqon waaye soomaalidu dheh laakiin doqon ma nin xikmad badan buu ahaa soomaalida horta waxaad ogaataa qofka aqliga leh waa doqon iyo waa waalan yahay dhahaan qofka garaadka leh haddaad og ina xaga dheera iyo cigaal shidaad iyo waxay ahaayeen filosofiyiin waaweyn ay ahaayeen ina xaga dheera marka waxa qowsaar buu ahaa xoola raaca xoolihii uu raacayay ilaan dad cid islaameedaa iska leh ayaa in laga siiyey qowsaarka waxaa la siiyaa moogtahay neef iyo waxbaa loo bixiyaa markaa neefkiiba u bata xoolahay ugu jiraan xoolahan uu raacay laakiin xoolaha baa ka yaqaanaa intiisu wuu ka yaqaanaa maalinkii dambe xoolihii kudaa ku soo booday kuwii qofka dadku lahaayeen dhiman maayaane kuwii isaga la siiyey oo isaga u farxama unbaa mid ka dhimanaya qalaf waa dhintay neefkan waa baktiyey kii kale waa baktiyey kii kale maalinkii dambe inta kala qaybiyo wuxuu yidhi ilaaha way dhagayso barkan anaa leh buu yidhi barkan xoolaha anaa leh barkaana adaa leh buu yidhi wuxuu ka wadaa moogtahay wixii xoolihii dadka raacsadeen dee barkaaga saa doonto yeelo buu yidhi aniga barkayga ha iga taaban oo ii nabadgeli sidii baa haddana loo tii ewel hal bay u dhimanayaane laba iyo saddex iyo shan bay isu raaceen intii kalena waa fayowdahay waa markaas markuu maagaya sallaxa biyaha kacab saasaha usoo foorarsaday baa sallaxii haddana halkaa faruurta kaga dhigay kaalaba deg ninkiibaba khatar galaba faruurtiisu sallaxii ula dagaalama faruurtuu kaga dhagan yahay mar danbuu iska fujiyey markii alla ka fujiyey oo halkaasoo kale ku dhaco wuxuu yidhi war haddaanu hadalno waa af sallax ku dhag buu yidhi haddaana aamusnaana arigii la sii dayn maayo marka annaga walaal isboortiga ma fiirsataa tusaale kalan ku siinaya isboortiga ma fiirsataa horta cabdi nuur isboortiga aniga reer isboorti miya laakiin filimada oo thrillerka oo xulka ah marka aan weekendiga soo dhameeyo shaqada oo sabtida axadda wax kasta iska dhameeyo ilmaadka halkaa filim inaan fiirsado waa jeclahay laakiin waa kuwa thrillerka tooraha khatarta ah oo ku jiro markaasoo kale maxaa dhici doona aan leedahay isboortigana waa saasoo kale rigoore marka kooxdaada loo dhigo kursiga geeskiisa intaad qabsataad saas leedahay moogtaa indhaha xurugta ka dhigaysaa markaas hebel rigoore loo dhigo gool ama waa gool ama ma aha saas leh inaan dowladdan dhahna waayo inta u dhiman geeska inaan haysano waayo wallaahi wax kale ma jiraan ya geeska inaan haysano waayo ilaahu mar lee naga dhamay waqtigooda kuwaan alla naguma soo celiyeen maxaa yeelay ayagaabay waji gabax u tahay midda kale waxa kaaga daran inta lacag bixiyeen weli madaxweynaha maa waa xafiiska ra-iisul wasaare ayaa lacag la bixiyey ay rabaan dad aan magac lahayn oon muunad lahayn oon taariikh wax ka aqoon oon qarannimo wax ka aqoon inay aflagaada ku difaacaan dowladdii dhammeed aflagaada ay
dawlad waxaan arki jiray ciidamo lagu difaaca qatara dawlad waxaan arki jiray hadalla qurux badan iyo doodo qurux badan lagu difaaco dawlad waxaan arki jirnay oo dunyada ka jirta maxay ahaatana wax la yiraaho waxaad iska sheegaysaa waxaas baa qabatay oo dad aftahana akraysata waxay kiraysteen inta dadka ugu hooseeyeen markaasaa aflagaadaa lagu difaaca aflagaado iyo qabyaalad cad oo biyuur ah lagu difaaca hal hadal hadaa tira waa lagu soo qaadaa afarta troll waxa la dhahaa af ingiriisiga troll lagu sameeyna troll waxa la dhahaa dadka ka caaya facebookyada iyo facebooka laakiin aan face to face waxba qofka u dhigi kar troll la dhahaa trollina lagu sameeyna waa lagu terrorize garayna dawladdiina maalin walba dhiiqay ku jirtaa waa taas dhiiqadii ugu dambeysay waxa waay ninay dhahay saaxiiba waa ku bariyana naga qalay inoo hadal noo soo hiiliyo ceebta naga fuj kii meesha isu soo taajiyay horta aniga waxba ka dhageysteen nin Ethiopia matalay oo Soomaali qaladka koowaad waa inuu marka hore warqadaha laga aqbalaa qaladaba dawladdu waa diidi kartaa diblomaad markii lagu soo no this is not ninkan waa sinji Soomaaliyeed waay annagana dhulaan nooga kiin maqan nasiib la dhawaay laakiin annaga maadaama dhul nooga kiin maqan yahay ninkan oo Soomaaliya no we are not accepting ma aqbalayno kana nin Ethiopian runa qaladkii asoo meesha ku joogo kuwan u heeli ceebta ka fujimaaga dhiiqabaaba kan sii fadhiisiyo هذا صبح واركينا مركي دبالدق دميان وحي كوادلا لكن كل بارلمانكا مدى كلا بارلمانكا سند كان واحد بدن كفلان مايا هذا الكي إسراع صد كما فلان بارلمانكا جواري انتو مدحاكا أها وحبال لغا فلان ينكا ستو أساقنا وقلادات بدن كلا لكن نينكا هادا قدوميها بارلمانكا أننا آد السنة قانوا فيسبوك صاحبان كنها تويتر صاحبان كنها but he is not head of the parliament speaker of parliament معها وأفهيانك الدولة دواي هذه مدحوينها soo mashxarada raba asaa ku soo digay Twitter ku ugu digay madaxweynaha qodbay rabay ogaada madaxweynaha hadda soo hadlaayo ogaa war adiga golay sharci dejinta aan madax ka tahay mudan ku toomiyay adiga maxaa madaxweynaha maxaa arooskiisa iyo mashxaradiisa u digay iyo meeshu ka hadlaayo shaqadaada miyaade baarlamaan noocaas ah marka oo nin noocaas oo gudoomiye uu yahay oo shaqadiisa ka sayn maskiinka see adiga wuxuu ka filanay inuu qabto ama maxay ahaatoonay istiishanadaas looga doodo ma laga doodayo hush lagu dhameynaa waana arki doontaa magaciisa idoo laga hadlo laakiin walaalkay cabdikariim anoo fursaddan ka faa'iidaysanayo waxaan leeyahay walaal geesi baa tahay adigoo kaliya geesi matida malaayiin geesiyiin ahaan qabnaa oo Soomaaliya jabhada oo wanaalafna waa jabhad xaqudirira waa jabhada kaliya oo xaqudirira oo hadda dambaysa waaye gobolka Soomaalida nalaga haysto Ethiopia naga haysato u dagaalanta xuquuqdeeda ama qoriha ku soo dhiciso ama maxay tahay si kale nabadgeliya xaqeeda ku soo dhiciso laakiin waa jabhad xaq u dirir mana aha argagixis shalana ma ahayn maantana ma aha birina ma noqonayso waxaan leeyahay nabad ku noolow gumba ku dhiibtay geesiyaal baa ku dooday gobba ku garab istaagtay ma fahamtay guulaha ku guulayaan leeyahay walaalkay waa ogahay aruurtiisina meel badan kala ku dayacan yihiin dadka qaraabada u ahna waxa waaye ninkan nin weyn waaye Soomaaliyeed waaye haddii aan wax loo heli karin xataa fundraising fiican loo sameeyo Soomaaliya dhan u gargaaraysa maanta ilmihiisa si waxbarasho iyo waxaaga ay u helaan hadda dawladdan oo aniga dawladda ay tahay dawladayda waaye maalin walba dhiiqa ku jirtana ama kaaga maahay wax aan ka qaban karo ma jirto laakiin ta aan faraay waxa way laba arrin oo ku soo xirina dadka fakarka wanaagsan ha israadsadeen ayagoon qabiil isu raaceen cidda doonta aha qofka dadka fakarka wanaagsan ee wadankan sixi kara ha israadsadeen forum ha samaysteen wadanka lagu sixi karo movement ha samaysteen afna lama raba ficil hal yimaadeen dadka masaakiinta ah ee indhow garatada ah ee la use garaynayo ee loo isticmaalayo political propaganda ee ifaani ana falxun ifaani maxay ahayd qodobada ah lagu la dhaqmaayana ha laga dhaadhacsiyo qarannimadu waxa ay tahay xuquuq waxa ay u leeyihiin ha laga dhaadhacsiyo tan kale waxa waaye saxaafadu eray bixinta ha badasho dagaalka waxaan ka bilaabi karnaa in eray bixinta aan bedelno Soomaalida kala qaybis ma u baahna in la isu soo jiido ma eray bixinta ha laga bedelo anigu intaas oo ku soo gabagabaynaa aad iyo aad bad mahadsan tahay weli mudanayaasha ma daawanayo aad iyo aad baa daawashadiina ugu mahadsantihiin iyo sida wanaagsan aad noola socotaan waa Amina Muuse Weheliye iyo Cawayska Xeegan oo si toos ah aad halkan uga socotaan kuwa kale
daan laga daawan doonaan waanu soo dhaweynaynaa waxaan rajaynayaa barnaamijkani inuu ku saabsan yahay uun haddii qofka nixiyo iyo haddii ku farxaba ummadda Soomaaliyeed sida ay boorka iskaga jafi lahayd meel kasta oo dunida ka joogto in la sheego qofka dhaliishiisa rasmiga loo sheegana ma aha in la dhibaateeyey waa in la leeyahay uun ka wanaagsanaado dowladda Soomaaliya ay hadda ka jirta magaalada caasimadda Soomaaliya Muqdisho haddii ay dhaliilsatay waxaan lama isleedahay waxani ma wanaagsano oo way ku jabantahay hawshani waxaan rabnaa inaad ka sii badisaan hawshiina haddii aad islaahdaan waa laydinku kala tegayna idinka dhiiqa galay ayaa daawadayaal u mahadsan tihiin hawshiinana waxaan leenahay halkiina ka sii wata weli barnaamijkeena ee aan bartamaha kaga jira cawayska heegan qodobada ugu horeeyana waxay ahaayeen aan ka soo gudubnay July iyo qalbi dhagax oo waliba qaybtii ugu dambeysay ku jir hadda su'aasha ugu dambeysay ee qalbi dhagax ku saabsan maxaa laga fili karaa markuu uu tago goob uu awoodo oo ku hadlo uu qalbi dhagax soo bandhigo bulshada Soomaaliyeed uu la wadaago maxaa kale oo su'aasha ugu dambeysay tahay isla qalbi dhagax maxaa kula talin lahayd adigu kala ahaan qalbi dhagax horta aniga qalbi dhagax waxa u malaynayaa una rajaynayaa in xil loo dhiibi doono muxuu yahay ma garanayo badrimkayga saas waaye sababtu waxa ay tahay ninka heerkaas gaaray ee ceebtaasi daraadii ay dhacday maxay ahayd toonay xil inuu qaban doono ayaa laga yaabaa weliba waxaan jeclaan lahaa aniga in Soomaaliya wakiil looga soo dhigo ninkii shalay ay dhiibeen ay sida gunnimada ku dhiibeen iyagoo weli jooga in Soomaaliya wakiil looga soo dhigo horta taa ma malaynayo inay dhacayso laakiin waan jeclaan lahaa isagoo safiira in loo keeno oo kii hadda maanta iyaga hushta u ceeb qarinayo lagu bedelo horta waa jeclaan lahaa laakiin qalbi dhagax hadda waa ku raacsanahay inuu saxaafadda ka warwareegto maadaama hadda u soo baxay qofku wuxuu rabaa time in la siiyo hadalka uu dhahaayo waa inuu noqdo hadal uu u diyaar garoobay waxaan kula talinayaa dadka qaraabadiisa oo asaga hadda u dhadhow oo la jooga Cabdikariin marka ugu horeyso oo uu hadlaayo asoo si fiican u diyaar garoobay ha hadlo hadduu hadlaayo haddii kale waxaa hadalka looga baaqsan karaa oo uu samayn karaa warqad qoraala oo uu saxaafadda u qaybiyo ayaa hadalka oo dhan ka kaafisa inta ugu horeysa oo dhan bilaha hore Cabdikariin waxaan kula talinayaa anigoo aqoonteeda saxaafadeed kaashanay ha ka waantoobo oo ha ka baaqsado inuu waraysi toos dhiibo bilaha ugu horeysa shabtu ha degto dadkii dhiibaha soo hadleen hamayay soo hadleen saasa ku adkaysteen horta halka u dambayso horta hal la ogaado weliga reer guuri raba lagama hor guuro waa la sugaa reer geediya oo guuri raba lagama hor guuro waa la sugaa waxaa hadalkaa u jeedinaa walaalkay maanta hadduu xor yahay oo maqlaayo iyo qaraabada isaga u dhadhowba yuu ku tagtagin inuu waraysi bixiyo cod ah haddii uu samaysanayo qalbi dhagax maanta magaca asaga uu leeyahay wuxuu yeelan karaa afhayeen qof afhayeena oo wanaagsan ha loo xulo oo asaga u hadla ama warqad u soo qora on his behalf asaga dartiis magaciisa oo saa saxaafadda loogu qaybiyo ugu yaraan dadka ha u mahad celiyo inuu nool yahay dadka ha u sheego asaga halkiisa laakiin yuu waraysi ku degdegin hadalna yuu ka soo saarin ilaa aanu laga kala hubiyo qolyihii dhiibay oo sida gunnimada ku dhiibeen waxay dhihi doonaan ayuu ka hor dhicin aniga taas aaminsanahay wuuna hadli doonaa mar unbuu kale hadli doonaa in xil loo dhiibi doonana waa aaminsanahay maxaa yeelay qofku waxyaaba oo wax uga sabri karaa jiro in magdhow la siiyo fiican xilna loo dhiibo labadaas haddii Cabdikariin la siiyo wuu ku qanci karayaa ayaan leeyahay aniga waxaan waa sandana adduun walaalo adduun waaye aakhira ka dambayso qof walba wuxuu qofka kale u geysto waa lagula xisaabtamayaa barito laakiin walaalkay kollay aniga sidaasan jeclaan lahaa ana u malaynaya inay u dhacayso aad iyo aad baad mahadsantahay Aamina Muuse qodob ay noo soo socdo oo ahaa marnaaminta bulshada Soomaaliyeed inkastoo aan filayo in aynu meelo badan aynu ka buuxbuuxinaa ka taabanay waxaan si ka horreysiinayaa siyaasadda geeska Afrika ballan waxaad moodaa in ay waxoogaa dabay jirto oo waddanka Ethiopia ra'iisul wasaare cusub ayaa la keenay ra'iisul wasaarahaasi wuxuu sameeyay booqashooyin fara badan sida dalka Kenya Djibouti Masar Suudaan iyo Uganda waxaa kale uu sheegay in uu ururadii hubaysnaa u argagixisnimadkii iyo waxyaabihii Ethiopia hore ugu aqoonsatay in uu ka qaaday yirina mar su'aal laga weydiiyay iyagu argagixisan ma ahayn inaga argagixisan ahayn waxaa jira oo kale
gobolkan Soomaali galbeed ama ogaadeen laga soo saaray shidaal muddo dheer oo hay'ado caalami ama hay'ado ugu yaraan waxaa la sheegaa in ay 75 company oo u badan reer galbeed iyo wadamada bariga dhaxaba in ay qodareynayeen horeyna agreementiyo intay u galeen ay ka bixeen siyaasaddaasi aad iyo aad u kacsan tahay waxa ay leeyihiin dadka qaarkiina xudunta dhibaatada ka taagan bariga Afrika waxa weeyaan waa gobolkaasi ogaadeen ama Soomaali galbeed haddii gobolkaas xal laga gaaro Soomaaliya ayaa soo noqonaysa nidaamkan iyo ma conflicting ka dhex taagan Ethiopia iyo Soomaaliya iyo dhibaatadan waa ay damaysaa maxaa la saadaalin karaa inuu ninkani wax ka bedelayo siyaasaddan geeska Afrika horta sidoo hadda ku socdo markii la fiiriyo ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia waa nin isbedel doona oo wax badan bedelaya waa nin cashar ku qaatay kuwa iyagu cashar kuma qaataan maamulada hore oo soo mara wadanka waxaa la rabaa maamul wada ka horeeya adiga qaladaadkoodii inaad nood garaysato nood ku qorato oo aad adigu qaladaadkoodii saxda markaad timaad laakiin inaad dadka markaad u timaado aad uga darto sida kuweennoo kale lama doonayo waxaad moodaa ra'iisul wasaarahan cusub ee Ethiopia inuu qaladaadkii maamuladii hore galeen u saxayo waa run oo maxay ahayd inuu yiri argagixisadii buu ka saaray dhowr buu ka saaray oo wana laf ku jirto oo kadib argagixisad loogama yaqaan buu yiri eego ma ahayn laakiin Ethiopia argagixisad taqina tan gobolka Soomaalida Soomaali galbeed ayaa aniga waaqaana Soomaali galbeed waa gobol weyn waaye aniga haddii aan caawa fursadan ka faa'iideysto oo wax yar hadalka aan halkii aad weydiisamay wax yar ku soo daro dhulkaas markii la xoreeyay oo Soomaaliya iyo Ethiopia dagaalameen oo Soomaaliya ay xoog ku qabsatay dhulkii dhan soo ceshatay awoowahay ayaa ku jiray dadkii lacagta lahaa hantida lahaa Xaaji Dalfac Ahmed Maxamuud Maalin Tuuriya Xaaji Dalfac dadkii la geeyay oo laaya jirta Xuseen dad badan oo lacag lahaa la geeyay meesha oo la yiri dhulkan maal gashta heerkaas anagoo joogna ayaa waxa soo galay ruushkii ayaa 4 saac noo qabtay kaga baxno yaa masaafirta 8 saacadood waana kaga baxno okay halkaas waxa ku bilowday burburkii ciidamada Soomaaliya wax badan ku bilowday kadib burburkii dalka waa soo taray haddii ninkani uu nabadgelyo wax ku raadinayo nabadgelyo wax lagu weydiisto ayaan qabaa laakiin marnaba aniga ma qabo Ethiopia haye waxa waaye kililka shanaad waa inay inta iska sheegato haye loo yiri aniga ma qabo aniga waxaan qabaa horta kuwa hadda jooga dhihiba ma ayaan goorba kuwa ka dambeeya dhahayaane in Ethiopia gudi inta loo saaro lagala xisaabtamo iyada iyo Kenya ba one time lagala xisaabtamo war gobolkaagii adiga ha helin hadaa doonto laakiin inaadan ilaawin hal ogaado inuu gobolkaagii yahay hal ogaado inaad keer garaynayso oo aad keer siinayso hal ogaado inaadan ilaawin oo ka tanasulin hal ogaado hamigaagu inoonan dhiman hal ogaado qarannimadaadii ku suurta gashaya iyo ku suurta gelina ina isku rabta hal ogaado dad Soomaaliyeed iyo dal Soomaaliyeed ha ka sabrin waa waajib rabbaani ah oo ku saaran waay iyo mid dawli ah iyo mid dastuuri ah waay marka ani waxay ila tahay horta talaabooyinku hadda wada marka la fiiriyo waa fiican tahay laakiin sida degdegta ay ku bilaabatay batroolka laga soo saaraayo Soomaali galbeed waxaa moodaa boob inay tahay boobsi inta aanay dhaqdhaqaaq cusub kugu dhalan camal inay tahay aad iyo aad aan uga xumahay batrool la soo saaray bointiga aan ku qabtay wadankan Soomaali galbeed waxa lagu wareejiyay Ethiopia 1954 waa 6 sano ka hor gobonimadii Soomaaliya daawadayaashana waan u sheegaynaa maalinta laga soo bilaabo ilaa caawa in joogni dhiig baa u qubanaya waxa kaliya ee loogu qubanayo Ethiopia lagu naasnuujinayo waa shidaalka shalay la soo saaray 75 company ayaa hore ugu guul daraystay Chinese oo isagu u gala wadamada si indhalaan ah horeyna 2007 dhibaato xun kala kulmay laguna jabiyay ayaad moodaa hadda in uu isagu sidii indhalaan tahay soo sii wada meeshan dadkii dhiiga u qubanayeen Cabdikariim Qalbi Dhagax baa taliye ka ah hoggaanka arrimaha gudaha iyo amniga ka ah hormoodaha Muqdisho laga soo qabtay markii Muqdisho laga soo qabtay ee la keenay Addis Ababa lagu xidhaysay gaashaandhigiisa Sheekh Deeqaan ay soo guriceel ka soo gudbay halka la dhigay waxay noqotay Ethiopia inay chance u hesho si automatically aan u soo qaado welin dhalinyaro ah ayaa sidii heegan ugu jira oo duurka ku jira
Ethiopiana waxay maanta u ogoshahay war waan idin siinhaynaa at least waxun baan idinka siinhaynaa nimayhun naga qalleeya Soomaali waxba idinma hayso oo Soomaali waa taa idin soo dhiibaysa hadal waxaa jira kaama boobin amna adiga wareysay laakiin aan ku ifiyo maalinta Cabdikariim laga soo dejiyay ee magaalada la yiraahdo ay Baydhabo ciidamada Ethiopiaanka way ka fureen baa la dhahay indhaha ka xidhnaa fiican wariye macruuf baa soo dhigay soo baxay soo maray ayustiisi gudnay oo inaan ku arkay kiibkiisa indhaha kaga xidhan waxay Cabdikariim waxba kama taqaanaane warimayahan ka furo xadhiga ninku saad mudaysaan maahan waa bahdil weeyaan marka su'aashu waxay tahay dhiiga quban haya laga soo bilaabo way ka horeysay Sayid Maxamed taas tu ay Soomaalida way ka horeysay 1954 maanta laga soo gaaray dhiiga qubanaya ee hadii la baxsadana loo soo qabanayo dhalinyarada noocaas ay wali ku sii jirta ummadda Soomaaliyeed maxaad oran lahayd warnimayahan ku garabsiya hawshaasi waa qadiyad Soomaaliyeed maantana waad aragtaan horta waa qadiyad Soomaaliyeed ani mar walba waxaan qabaa cid kasta oo u taagan gobolkaas soo celintiisa horta in la gacan siiyo wax la isku baryayo ma waa waajib waay ama dawlad ku jir ama ha ku jirin waa ina hadasho laakiin aan meesha taalo haddii dunidu ay qoryaha dhigto oo la yiri dagaalka waa laga tanasulayaa ee waa la wada hadlayaa ee hadalkiiba ku furan xataa hadda dawladda Soomaaliya waxyaabaha la gudban waxa kamid ah shidaalka gobolka laga soo saarayo haddii warqado ay sii diri lahaayeen ama qoraalo sii jiri lahaayeen oo ay ahaan lahayd dawlad qadiyadii gobolka Soomaalida raadinaysa kontan kaliya ma haya macal dawladihii ka horeeyay Xasan Sheekh iyo kuwa ka sii horeeyay haddii dawladda qadiyada gobolka aan ilaawin ay ahaan lahaayeen maanta waxaa la joogi lahaa heer wax laga weydiiyo shidaalka la soo saarayo positionkaas ala joogi lahaa maanta adan gobolkina gacanta kuugu jira xaqa u leedahay inay weydiiso mid kale waxba ay ku soo dhacay walaalo ninka safiirka ee qoladan ay yiraahdeen noo ceeb qari oo maanta afhayeenka dawladda noqday miyaanu ka mid ahayn dadkii hore diyaaradda u sii raacay qalbi dhagax markii la dhoofinayo soo kama mid ahayn yes shaki ayaga jiray xasir ama xasuusobaysa hada ninkii ka mid ahaa ee sii hore diyaaradda u sii raacay iyagu u hadlay iska garanayna ayuu ma garatay marka ani waxay la tahay qof kasta oo Soomaaliya in la ilaawo ma aha gobolada naga maqan absolutely in la ilaawo ma aha dadku markaad meesha dheer wax ka fiiriso bay meel aan macna lahayn kaaga daba wareegtaa Soomaaliland kana hadda wadanka waa qaybsan yahay waa run laakiin haddaan saan ku sii socono hal gobolna ma haynayno kan koonfurtana ma haynayno waati ay ra'iisul wasaaraha ka soo Ethiopia baarlamaankiisu sheegay marka dambe wax dhawaaba la isku firi doona geeska Afrika la isku firi doona Soomaaliya iyo waxa la isku firi doona wax la noqon doona waa riya asaga hadal u yaal waay laakiin anaga kuweena aaway what about us kuwa anaga aan ka dhalanay oo Soomaalida ahaa may wax ka dhaxan marka gobolka la soo saaraa waxaad moodaa shidaalka hadda la soo saaraa boob inay tahay moodaa boobsis inay tahay waan amina isla ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxa uu ku yimid kacdoon buu ku yimid kacdoonkaasina wuxuu ka bilowday magaalada Addis Ababa beeraley yar oo dhinacyada ku hareersan in dhul ballaarsi ay dawladda caasimadda la fidiyo oo beeraleyda yararka ah la yariixo kacdoon ka bilowday buu ra'iisul wasaaraha Ethiopia ku yimid ma kula tahay in ay Soomaalidu oromadu kacdoonka ay sameeyeen ay sameyn doonaan oo baatroolkooda automatically ama sida boobka degdeg shalay loo furay in ay kacdo noocaas ay la imanayaan ra'iisul wasaaraha Ethiopia musaddiqan yahay inuu beerahoodii oo yaa dhul ballaarsi lagu sameeyo oo isagu ku yimid meesha kacdoon ka dhashay maya Soomaalida kacdoon ma sameeyayso ana ku dhahay laakiin oromada iyada hadiiba la yiri Soomaaliya idin furana ku qulqula ay horkay nagu soo qulqulaan meel aan marnaan ba weynaynaa meel aan marno anaga meel aan aqdigna ayaa la weynayaa ma fahamto mid kale dawladahana hadeer ay tubi ka horeeyaba awood ay wadanka ku hantaan may lahayn wadanka inay hantaan ayaa horta wax lagu xukumi karaa maba tabartaaba u diido man powerki maba jiraba wadanka ma hanan karaan xuduud wadanka haday dawladdu hanan karin xuduudiisa ma ilaalin karto it's open way governatorial isu maleeya inay madaxweynayaal yihiin waa joogan oo maamul goboleedyo ah oo qayb oo xukunta qayb ka ah ma fahamto
already qayb kamid Ethiopia raacday qayb kamid Kenya raacday already ba miinaysan ba naba ku joogan marka horta Soomaali muu malaynaa inay kacdan dhalinayso halka meesha ka dhaqdhaqaaqaya fiiri waxay ahayn ONLF-na maanta haddii argagixisada laga saaray iyaga naftirkooda waxaa laga yaabaa inay dadaalkooda yareeyaan anise ila tahawa ana imagine garaynayo doorkaasaas ugu jireen nimankaas cidiyuu ku bixeen oo timuhu ku bixeen waxaa laga yaabaa inay wixii yareeyaan رئيس وزراء عصب بدل راقي شوية دت كيسي دل كيسو تناينا يا واحد عايز مركز إن وده هذا اللي يوحد باللودان لكن إن دلك أو محيطهم سومالي قلبيت شدالك تقدر لو بس صار وركوانا حتى اللي جوا الشينة وأركي لها والله هل مربات هو وأنت اللي قلت له فوق لها واحد مودا إلا بوبسينا يا مودا بحباب عملها عملها ما يقف قبلها كلا شدال كجرا إثيوبيا سومالي قلبيت بس مو كجرا ولكن شمال قلب لو بوبسينا اوكي waxa la isla leeyahay la boobsiinaya waxa moodaa Ethiopia kala way Ethiopia waxay ayay laakiin waxa moodaa meeshan waa meel yaa waa ka gaarsiiyay weeyaan inta adduunku isbedelay gaarsiiyay waa ugu bilaababa waa boobsi waay ha ay waa meel wada leeyahay bay u eg tahay laakiin waa warjira waxa ka ruumanaya Soomaalidu kuma mahada amina kulli waqti dheer baan ku jiray daawadayaasha aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee noola socoteen iyo Amina Muuse Weheliyo oo ah wariye caan ah bulshada Soomaaliyeedna mar walba la wadaagta macluumaadka iyo xogaha rasmiga ah in ay maanta si fiican barnaamijkeena inoola qaada dhigaysay xoga fara badan oo inaga taxsanaana in siisay Amina mar labaad mar saddexaad aad iyo aad baan kaga mahad celinaa adigana Amina su'aasha ugu dambaysa waxa ay tahay ma qodobkeena ugu dambeeyay marin habaabin bulshada Soomaaliyeed lagu wado ama qabiil ha noqoto ama musuqmaasuq ha aado ama ha noqdo gobolaysi iyo nidaam anaga maxay gobolaan kan laan iyo xitaa madaxdii meesha joogo marin habaabinta waxa ka mid ah qaabkan siyaasadda hadda taagan inuu ka hadlaynay afhayeen safiir la leeyahay wadan kale oo afhayeen dawlad u noqday marin habaabinta Soomaalida lagu hayo maxaad nooga sheegi kartaa 2 iyo 3 wax walba taasaaba ka daraba wax kasta maaragtay maanta taasaa ka daran waxa ummadda Soomaaliyeed intii wacyiga lahaydna ma hadli karaan hadday hadlaan way lagu shamuumaa intii kaleeto oo wax bedeli lahayd wax ma bedeli karaan because awood iyo kursiga ma ku fadhiyaan ay wax ku bedeli lahaayeen midba midku ka daqonsan yahay ayaa xukunka tagaaya deetana dadkii waxa lagu sameeyaa marin habaabinta waxa ugu horeysa marka laga dhaadhacsiyo in reerkaaga oo dawladda yahay dawladda dhan ee wadanka ka tarisa marka inuu reerkaaga yahay laga dhaadhacsiyo ayaa marin habaabinta ugu horeysa taas waay marka laga dhaadhacsiyo adigu waxaad ku reer tahay madaxweynaha adigu waxaad ku reer tahay gudoomiyaha baarlamaanka adigu waxaad ku reer tahay ra'iisul wasaaraha saas la adliga dawladdaada qabiil ku difaac adigana hay'ad tira marin habaabintu waa halkaas waa markaas marka aad dhuminayso dhammaanba waajibaadkii kale ee qaranka ka saarnaa marin habaabinta marka maxaa looga gudbi karaa waxa looga gudbi karaa waxbarasho waqti dheer socota aniga been ma ku sheegayo dadkan sida loo saxo hadii soo fiirsidna oo marin habaabinta looga dhameeyana way fududahay hadaa soo fiirsidna waa culustaa walaalo Cabdinuur way fududahay hadii dadka intay isfahmaan inta cod kale dadku waa qaar cod leh iyo qaar cod loo yahay inta cod kale oo hadli karto oo hadalkooda uu meel dheer gaarayo haday intay isfahmaan dadkan marin habaabinta lagu hayo fi sabiililaahi u sameysanayo ay wax ka qabtaan wax waa bedeli karaan Soomaaliya afka xigta wacyi galin waxna ma wacyi galiyaan waxay wacyi galiyaan oo dhan waa qabyaalad iyo qurun iyo qashaabir ay wacyi galiyaan laakiin anig hadii ay inta cod kale ay fiicnaan lahayda oo wanaagsanaan lahayda inta cod kale inay waxbarashada ka u furaan waxbarasho marka la iskuul aadayo ma waxbarashada koowaad waxa waa saxaafada iskuuladii ma jiraan ninkii maanta awood leh iskuul tagay bas ninkii awood leh oo waxbarasho kala iskuul tagay wadan gudihiisa iskuul free ma jiraan in yaro hay'ado maamulaan oo iyaguna projectooyin iyo mashaariic iyo dana ka leeyihiin okay hadii si loo fiiriyana marmarka qaar qoysbaad istaagaysaa markaad aragto meeqa jiil ayaan la marin habaabiye oo ilaa hadda marin habaabin lagu haayo meeqa jiil ayaan waxbarasho toos helin waxbarashada tooska ah ayaa lagu anagu ku baranay qarannimada waxaana loo dhigi jiray waagii kacaanka maadada kacaanka waxay imbaradoriyada caalamiga ah
sahyuuniyadda caalamiga ah markaas waxaa la haystay yuhuudda sahyuun yuhuud nacaybka iskoolkan kasoo bilowna anaga wadaad meel fadhiya oo majmaha soo subkado qamiis soo xiran annaga yuhuudda nacna ma dhihin jiilkeenni iskuulka sahyuuniyadda caalamiga waa yuhuudda iskuulkan kusoo baran afrikaannimada iyo ban african iskuulkan ku baran yani smith ma moogeen rhodesiya ma maageen haddaan midig la siinayn heeso waxbarasho casharo ana lagu bari jiray imbaradoriyadda caalamiga ah hanti goosigu inuu wax xun yahay oo hanti wadaaga dadku inay wax wadaagaan inay fiican tahay iskoolkana loogu dhigi jiray ma fahamta wax iskuuladii waxaas lagu baranayay male finish iskuul curriculum jinin lagu haayo ayaa qofka waalidkaahay ku qasban yahay oona na awoodin lacag oonan awoodin inuu ku bixiyo cunugiisa u diro see dadka wacigooda ugu dhismaa marka waxaad arkay qof weyn oo 35 sano jiro qaaluu balaana ka saynin qarannimana waxba ka ogeyn oo qabiilkiisa u sacabto qabiilkiisa u sacabtuma marka be honest noqoto oo naftaada aada been u sheegin oo aad ogaato qabiil hadduu qoran noqonayo magaciisa dagaalada sokeeyo Soomaaliya ka dhacay ayaa dawladda noqon lahaa hadduu qabiil magaalada Muqdisho ku dhasho kaaga sheekaynayo oo isbitaalka Martiini aan kaaga sheekaynayo oo ku lahaa oo muliso Soomaaliya oo muliso China sooyada iga dhan magaaladaas aan ku dhashay ayaa laba inta loo kala gooyay ayaa laba qabiil oo isku qabiil ah laba jufo isku qabiil ah juf iska siis wax dawlad noqonaayeen dawladda noqonaayeen ma fahamta qala dabar goyn kartaa ma jirto qabiil markay noqoto dawlad ma noqon karo absolutely ma noqon karo marka walaal horta ilaahan qabnaa laakiin aniga markaan dareenkay qofnimo markaan ka hadlo aniga aaminay ma u malaynayo inaan arkaayo dad Soomaaliyeed oo meeshan rabay jooga ma arkaayo aniga haddii aniga iga dambeynayaan ma ogi arrinta qurbaha ila joogtaa ani qurbaan joogaa ilmaha qurbaha aan ku dhalna fiirin waxbarasho waa baranayaan waa dadaalayaan inta yaroo ilaahay xabsiga iyo daraagiska ka caymiyo laakiin wixii ay barteen waddanka markay kula noqdaan iyaga waa la cunsuriyeyna dhaqan ma yaqaanaan luqad fiican ma yaqaanaan qaaluu balaa ma ka saayaan qabyaaladii halkaanaa laga bilaabay dadkii waaweynaa iyagoo la yaaban hadday xagga tagaan wax ay tarayaan wax ay tari karaan maanta balaha ma noqon karaan dad isku duu ha fiirin hal wasaaradaha wax laga siiyay ama hal ururo inta samaysta xamar wax ka noqday oo Facebook soo dhigay ha fiirinin waxa fiirisa in general fiirin tukun daakuna isku noqon wadamada ay ka tirsanaanayaan bas waa dhamaad kuwa inta ku dhalay ingiriisi ka tirsanaanaya kuwa Sweden lagu dhalay Sweden noqonaya kuwa Mareykanka lagu dhalay Mareykan ay ahaanay taxsiid waa dhamaad yaa qaranka difaacaya aawa qarannimadii jiilkeenina annaga waa ka gaboobayna waana dhimanaynaa that's it waa dhamaad kaabo idoo habeenka xorriyada tahay hadal laga qormaayo oo yahay haddaan dhinta kadib media ku sii jiraayo aniga niyadayda ma fiicna ma qaba dad Soomaaliyeed oo qaran badbaadi kara ayaa jira laakiin haddana inaan quusto ma aha ma fahamtay marka weli waxaan qabaa haddii wax waa labada iyo saddexda wala sii toosi karaa wala sii wacyi geli karaa haddii inta oo cod kale ay israadsato oo inta wacyigoodu dhisan yahay ay israadsato saxaafaduna ay dadaasho laakiin heerka aan damage-ka dhibaatada iyo burburkana gaar heerka oo taagan yahay riwaayadahan la dhigaayo aniga uma jeedo riwaayadaha waxa ka dambeeya ujeeda daaha gadaashiisa arkaya rajadaydu ma fiicna buu هذا أمنية جبسنة waan gartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Aamina Muuse Weheliye waxaan filayaa waa habeenkii 1 Luulyo sida aan sheegnayna barnaamijka 1 Luulyo kaliya tamuun ahayn qaybo kala duwan ayuu lahaa in badan baa barnaamijkeena lala socday la daawanayay way ku mahadsan yihiin daawadayaashu 1 Luulyana caawa fidoon xaaladdu ha noqoto hawshu waxa weeyaan la taqanto min raxmatillah ka quusanina naxariista ilaahay aamina adiguna waxaan ku leenahay ha quusanin waqti wanaagsan baad soo martay wadankii waxaan ku yiri run ahaantii waayo waxaan marayaa nasiib uma naahilin anagu xilligaas waxba nagama weynid laakiin waa naga nasiib badan tahay
waana naga reer magaalsanaydo waxa weeyaan Chinese baba adduunka Chinese baba kugu horreeyay iyo hooyada annaga Chinese dagaal mooyee nagama dhaxaynin ba wax kalaba weliba Chinese waxaan TV ma ka arki jiray waxbay yaa cunaan oo jirqaad waxa noocaas oo kalaha si doonaya aad daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo waa kowda luulyo weeyaan in kalamaana bakhaylin baashaalka caawa kowda luulyo waxaan rajaynaynaa in aynu wada ciidno waqtiguna uu noqdo waqti aad iyo aad u wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed ay intii gobonimada qaadatay iyo intii gumaysiga ku jirtay ay Soomaalinimadkooda adkeeyaan aaminay kulley waxaan maraynayaa kulley intii gaadhay way kugu soo dhacay xilli baad xasuusanaysaa marka laakiin waxa jirta aaminay anigu Soomaalinimadka aad iyo aad baan u jecelahay waana ku dhaartaa weligeyna dhulka la gumaystay mooyeen jamhuuriyadda Soomaaliya ma arkin anigu ni weyn oday aanahay laakiin jamhuuriyadda Soomaaliya si calanka qaadatay weligey ma ark waana jecelahay waxaan aaminsanahay marar fara badan annagoo ku sugan gudaha dhulkan ay la haysto haddii aan baxsano on xagga u cararo in ay kuwaasi nooga badaran yihiin oo soo qabanayaan waayo nimankan Ethioopiyaanka weligana dhibaataan isku haynay waanu naqaanaa sida looga dhuunto iyo looga gabado laakiin kan waa Soomaali weeyaan haddii maba garanaysid Ethioopiyaanka inuu kaaga horreeyay iyo in kale horta shaakada kaa dhex galay markii aan iskuulka dugsiga sare dhiganaynay niman waxaa naloo keeno oramo ah oo ninkan hadda ra'iisul wasaaraha ka ah reerkiisa ah waxay noo dhigi jireen maada la yidhaha Malaysia Soomaaliya mar walba dagaal ay diyaar u ahayd hadda waa dugsiga sare maadada Malaysia wax kale ma lagu bara jirin dagaalka iyo sida dhufayska loo qodo lagu bara jiray waxaana la bari jiray sida loo furfuro dadka iyagoo ku jeeda inaad lifetime ku soo wacayaan hadan waxaa la isku bari jiray sida qoriga loo furfuro iyo sida loo xirxiro qoriga qaybihiisa aad uma xasuusto waxaan ka xasuustaa toora xambaar oramanin laba nin oo oramanin cabdi la dhahaayo anoo dhigi jiray midna nin kaleeto la dhahaayo maxay to magaciisa muxuu cabdi salaam wax saas camal la dhahaayo labadaas anoo dhigi jiray qoriga waxaa laga soo saarayaa asoo furfuran ayaa waxaa laga soo saarayaa qasnad maxay toon sanduuq oo alwaax ka samaysan oo nambaro ku qoran yihiin qoriga waa furfuran yahay xashiisha ku dhex jiro qoriga dhan waxaa ku daadsan oolyo aad ugu marsan si waxa la diidaa inuu mirro birta waa nadiifinaynaa marka waxyaabihii marka aan ka faa'iiday ayaan kuu sheegayaa iska sheekaysanaynaa mogtahay Malaysiada waxaan ka faa'iiday sida dhufayska loo qodo dagaalkii sokeeye markuu dhacay waa kii Cali Ciidiid yaa kii weynaa lama rabo kii weynaa oo BMK Maxamed Siyaad ma la rabo kaas waa banaan maalid waa ka baxay laakiin kii Cali Ciidiid halka ayaa kale isu tuuray markii la qoday aniga waxaa dhufaysa qodaynaa aniga iyo walaashay Shukri iyo walaalkii Cabdiqaadir hadda Mareykanka jira dhufays weyn aan guriga ka dhex qodanay waxaan naqaan sida dhufayska loo qodo dhufayskii markaa qodna marka dhufayska laba waaye mid waxa waaye godaa qodee bacaadka aad halkaan is hor dhigee bacaadkaas ayaad gabaad ka dhiganee si aad qorigan saasa u saaree si aad cadowga u shiishto midna waxaa waaye guri camal waaye waa god afar gees ah waxaa qaadanaya geedka wax lagu cabiraaye waa qodee hoose u qodee laakiin carrada inay jilicsan tahay oo aad kuugu soo dumayso lama rabo waxaa la rabaa godka haddaa gashid madaxaaga inuu xoogaa ka sarreeyo meelahaas camal inuu afkiisa yahaa la rabaa kabacdi godkii waxaa saaraysaa tiirar iyo waxbaa saaraysaa qoryo darmaa saaraysaa korka ciid kaga shubaysaa because waana la cabsiyey waxaana la dhahay diyaarado caldida diyaarado hela oo soo kacsanaya annaga marka waxaan ku jirnaa dadka oo waqooyiga degan marka adiga qabiil iyo qabiil la'aan maba ahaba hadba meesha adiga aad jirto cali mahdi dhinaciisaan jirnaa oo gurigaaba marka hore meesha nooga yiilan so iyo xabadaha zaa'idka ah maaragtay xabadaha zaa'idka ah oo wiiftadana too much ay noqotay marka waxaan rabnaa iyadoo waa yeelana waa joogtaa meel aan cuntada habeenkii aan karsanaynaa in markay rasaasta aad iskugu dhacdo jaranjaraa marka godka gashanaynaa afkiisa jaranjarada ku deganaynaa
godkaa ku jiraynaa cuntada meeshaa ku cunaynaa dirina waa noo taallaa bis halkaasaa fadhinaynaa maalinkii dambe ayeeyaday allah u naxariista ha nagu mudaaharaado saanin ayay waa gelinay waqti hal maalinaa gelinay waaga markuu uu gobol ka dhacay xabadda waa joogsanay ay soo bixin maalintii labaad waxay diiday anigu ma galaaya dhah anoo nool maa khabri galaaya dhahday waxaan xasuustaa enerjiga aan aniga iyo walaashay anaa ka engineer ahaa horta because qofka maadada sida fiican u qaadatay iskuulka ku horreysa anay ahayd ma fahamtay sidii aan godkaas u qoday ayaa xasuustaa ma ogi inaan qodi karo godkaas oo kale laakiin wallaahi god weynaa qoday god weynaa engineer ka noqday keligay ma qodin waa layla qodo laakiin god weynaa engineer ka noqday waxaa saaranay barteelayaasha oo aabahay oo maxayto foorno rootiga qabnaa rootiga waxaa la saaraa saxuuntiisa alwaaxyada la saaro oo dhaadheer godka saas u saarnay kabacdi darmaan ku fidina kabacdina ciidan kor kaga shubna meel yar oo laga galo oo jaranjaranayna waa ka banaanan kuulow noqday godkay qatar ah xabadihii rasaasta oo dhanna waa kaga gaban laakiin ayaaya markayna diiday ilmaha yaryar iyo kuwa naga yaryara walaalaha iyo ifraaxdan iyo walaashay najmi iyo dadkaas yaraan gelin jirnay annaga banaankaa joogi jirnay because ayaydayaa banaanka joogta aniga hooyo iyo banaankaa joogaynaa ma garatay marka dadka maadada maleeshida lasoo baray ka dambeeya aniga wallaahi hadday qabato maanta oo la yidhaha soomaali dhanaa la xoreynaa qori ha la qaato islaantan feeraha weyna ciyaaraha u qaadanayna waa tababaranahay ma garatay qorigii toora xambaar ilaa hadda waa xasuustaa ma hilmaama labadaas ma garatay ninkastoo violentiga dadka jecel ama dagaalada jecel aanan ahayn laakiin hadday wixii lama huraan noqoto oy noqoto waddankaaga difaac diyaara ahay aniga inkastoo adduunkii uu ka gudbay dagaalkii qarniga 21aad lagu jiro ay tahay wax kasta in maslaxad iyo hadal lagu dhamaysto laakiin waxaa ila foolxay wax kasta aad baad mahadsantahay waa horeyna waan u sheegnay daawadayaasha sharafta badan aamina muuse weheliye weriye unbaad ku maqli jireen laakiin tababaro ciidan inay tahay ilaa caawa noo cadaysay xitaa injineer tababaro ciidan mihi laakiin maadadaasna waa soo qaatay maxay tahay xalana markaan galnana waa si fiican loo soo tababaray laakiin ciidan ma ihi way jirta form 2 markaan galaaska labaad oo dugsiga sare dhiganayna waa nala imaaday yaa layli sarkaal qoranaya nala dhahay dadaa naga baxeen oo saraakiil qorteen markaas iyadana way jireen oo wiilal u badnaa way jirta fursadaha ciidan lagu noqon karo way jireen midda kale aniga hooyaday awoowahay hooyaday dhala marinis oo ahaa marinis ciidanka badda u ahaa ani markaan dhalanaya caluulow jiray caluula ayuu jooga markab caluulad ayuu saaraa markaa imaaday alaaba iyo markaa dhashay oo kadib hooyaday soo booqday soo sheekada ku aqli ka bacdina laba habar yaryaashay hooyaday la dhalasheen xaliim islo iyo muumin islo ayaa noqday saraakiil oo asaga bedelkiisa saraakiil noqday marka qoys dhinaca askarka ahna waa ahayn waa waaweeya marinis ahaa marka wadankii waa anagu nolol fiican ku soo kornay dad qarannimada lagu badbaadinaya ahayn dad caasha calam duul sanam ramsa culaa ramsan minam qaadi jiraan ahayn calan yahow ha dhicin dad qaadi jiraan ahayn dad heesihii heesaha kacaanka aan lagu leeyahay ma ahayn heesa kacaanka liimeen wadaniyiin ay ahayn heesa wadaniyiin ayay ahaayeen ma fahamtay dad subax walba calanka inta saara salaama ay ahaayeen haddana beerkan farta ku haynaa waxaana soo gaaraya warar la leeyahay dowladdu waxay rabtaa calanka inay bedesho oo xidigta dhexda ka bixiso soo shanta Soomaaliyeed u inkirto marka waxaan ku jirnaa waxa soo guuxaya walaalka daran marka waxaan ku niyad samaado oo badan ma yaalaan laakiin ma raba inaad dadweynaha kale niyad jabiyo maana ku huban niyadu ma xumo waa la taqanuudu raxmadillaah sidaan hore u sheegnay aamin waxaan ilaahay ka baryahaynaa guud ahaanteen aynu helo ummadii Soomaaliyeed iyo kacaankii aad moodayna dad far badan magacaas baad xumaynayaan ma xumaynay aad iyo aad u wanaagsanaa inta aan ku dhalan iyo inta aan aragna way ku fikirayaan oo wandhay waxaan ku fikiraa in aan aragno jamhuuriyaddii Soomaaliya annaga oo taagan in aan aragno oo xor iyo sharaf iyo wanaag lagu wada noolaado ummadda Soomaaliyeedna isu hilowdo isuna heliso meel kasta oo dunida ka joogto aamina muuse weheliye aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtiga qaaliga ah ee la wadaagtay dad aad iyo aad u tiro badan oo caawa bartan live ka ahaa kana faa'iideystay waxyaabo fara badan faa'iido fara badan aad u furtay oo ugu horeysay taariikhdaada aad iyo aad u wanaagsan run ahaantii wadaniyadu ay ku dheehantahay intan topic aad ka hadashay aan hore u soo akhriyay dhammaanba waxay makhraati ka yihiin qofku backgroundkiisii inuu yahay wax sax ah waxayna makhraati u yihiin ama caddayn u noqonayaan waxa uu ku hadlayo iyo wadaniyada uu sheeganayo iyo topiga uu ka hadlayo taa hore ayaa daliil u ah run ahaantiina
wa ay mudan yihiin in aad mar labaad iyo mar saddexaadba dadkan aad ugu celiso adigoo ka hadlay qaybo weyn kala duwan hadday saynis noqoto hadday military iyo askarnimada iyo qaabkiisii noqoto hadday macallimiin iyo wax soo baritaan noqoto haddii ay noqoto macallinnimo hanjeeda aan idhaha saxaafad eray bixin iyo ummadda Soomaaliyeed in ay din warbaahinteedu isugu noqoto oo dib ahaan juqraafi ahaan iyo af Soomaali ahaanba loogu noqdo qaab kale inoo haysto maskaxda la inaga haysto aamina ma soo koobi karno mahad celintaada sidoo kale waxaana iloobi karin dadka caawa barnaamijka ama comments-ka ha noqoto ama daawadayaasha sida tooska ha noqoto ama kuwa dibka daawan doona dhammaantiin waanu idin jecelahay waxaan rajaynaynaa maanta oo 1 milyan caawa loo dabaaldegayo in dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay u wada dabaaldegto farxad aad iyo aad ayaanu idin salaamaynaa aamina ma soo koobi karo sidoo kale injineerka barnaamijkan Axmed Heegan cawayska Heegan maamulihiisa aad buu soo mahadsan yahay waxaanu kaga tegaynaa maxaan kaga tagnaa dib Soomaaliya toos aan waqtina masa Lulio ana noo dooraya aamina ana noo dooraya okay ana noo dooraya laakiin waxaa jiro waxaa jiro 2012 ayaa waxaan qoray gabay la yiraahdo sanad guura wanaagsan anoo ka shidaal qaadanayo gabaygii abwaan timacade marka gabaygii baan wax yar ka akhrinayaa wax badan xaaladda iskama bedelin inkastoo dawladnimadeena aad moodo inay xoogaa inta hore ka fiican tahay marka waxaan idhi sanad guura wanaagsan la dhahaa geeraarka sarreeyow calankaygow samaantii nafsadaydow sumadii qarankaygow sumcaddii waddankaygow sarreeyow manusqaamow sanad guura wanaagsan shalay markaan ku sartaagniyo sidaan maanta u naaliyo sumcaddarrada nahaysiyo sharafteenna sagsaaga markii aan sawirkaaga iyo suuraddaada arkaabaa sidaasaan ku sabraaye sarreeyow manusqaamow sanad guura wanaagsan sharafow sadrigaygaad sidii aayad ku taallo samada kii u ekaayow subax waa kugu toosaa habeen waa kugu seexdaa samawadow sharaftaadan sidii shaar huwadaaye sanad guura wanaagsan waxaan soo marnay maanta silic iyo dhibaato si fiican baan u xasuustaa marna kaa samri maaye aad baan kula socdaaye sarreeyow manusqaamow sanad guura wanaagsan doqontii aad sadkoodiyo surubtooda ahaydbaa abaalkaagii sad buurshee adigu waad saxantaayo dembi maadan samayna sarreeyow manusqaamow sanad guura wanaagsan sansaantaan arkayaayo saxansaxaa cartamaysee saadaashaada hagaagiye dhibtu waa naga suuriye markaasaan sagxaddii iyo sulufkay ku dhigeen baan kaa soo saari samaalow sarreeyow manusqaamow sanad guura wanaagsan aqla soohanayaashii sharaftaadii sileeye qaarna waaba safreeno aaqiraysad u doonteen qaarna waaba sidiiyo weli waana siloon yihiin dagaal bay salladaano sugtaa bay hanahayaane saxariir ma turaane sariigtoodna ha sheegine goordhow baase samaalow surunkoodu ku yeeriye eebbana waa naga saaraya sarreeyow manusqaamow sanad guura wanaagsan sarreeyow sharafloobow waxaan saacadda joogtiyo sanbabkayga dushiisa iiga yaal sawirkaago waxa aan sahwiyaa anigoo ku salaamo seermaweylida roobkiyo saamaha ay da'ayso dadkaygaasna sagaaska siigadii ay ka duusho qosol saafka ka qaado farxad aan sursurnaaye sarreeyow manusqaamow sanad guura wanaagsan anigoo ah saqiir yar gosha hooyaday saaran baan ku salaami jirayo samada kuu babinaaye saakay waaniga soohano ooyintaan salabhaayo intaasaa surmadaydu iyo awooddaydu sintaaye waxba kaama sarreebane sarreeyow manusqaamow sanad guura wanaagsan gabaygaas waxaan ku sadgooyey 2012 sida xaaladda waddanka ahayd marka hadda ma aha hadda intii hore waa ka fiicannahay bad laakiin wax badan oon gabayga kaga hadlay waa sidiisii maxaa yeele waa runtay anigoo yar oo ayaan maalin salaami jira calanka somaada garan marka calankii saas ahaa qalbigayga waa ku weyn yahay maalinta xorriyaddana qalbigayga waa ku weyn tahay laakiin sida dadka iyagu u dhaqmaayaan sida loo kala qaybiyey iyo sida qabyaaladda heerka la gaarsiiyey ee in iyada insurance laga dhigto ee qandaraas laga dhigto ee insurance laga dhigto dadkan gaaladaa waxay galaan waxay yidhahaan life insurance waxay galaan car insurance waxaanu leenahay house insurance markaan gurya gadano insurance ayaa qabyaaladda laga dhigtay nin walba kursiga yimaada waxaasaa niyad jabinaya laakiin mar walbaba dalkeenna iyo qarankeenna waa jecelnahay waana jecelahay waddaniyaduna walaalo marka la aanfasiro waddaniyadu ma aha inaad magaca soo bedelato xaliimo qaran aamina soomaali
حاوة محي هي توني مداشو هبل ما أها ودانيودو ودحدة قلبك مسكحدة يديك واي inaad garato qarankaaga waxa uu danaha inaadan nin caabudin nin xukun haya inaadan u sacbato min oodan caabudin laakiin aad wadankaaga jeclaato si qalbiyan ah dadkaaga inaad jeclaato waxa uu qaban kartana waajibka rabbaaniga oo ku saaran waa waajib diini ah afka inaad ku saxda qaladka markaa aragto markaan hadlayno anoo kaleeto markaan tayda ka hadla markaan hadlaayo iskama hadlaayo waxaan gudanayaa waajib diini ah haddii dadka qaar ay rabaan musuq inay inta falaan janno galaan ama qaar ay rabaan inay soomaalida inta gowracaan janno galaan anna waxaan rabaa anoo soomaalida saxaya inaan janno galo hadalkayga iyo qowlkayga iyo carabka iyo aqliga iyo garaadka ilaahay i siiyey iyo codkayga waxaan rabaa inaan janno ku galo anigana ninba janno si ku raadsay ninba dahab lumay si uu doondoon riwaayada ahayd magaceeda marka nin walbaba jannadii siduu ku raadsaday anna jannada waxaan ku raadsanayaa maalin walba dadkayga inaan wanaaga faro maalin walba inaan ismoogaysiyo kan caytamaya ee marin habawsan ee qabyaaladu dilootay ee dacarta daadinaya kan qaygu ka da'aya ee falxumada huwan inaan ismoogaysiyo oo ignore gareeyo kan fiican ee wadaniga ah ee dhiiga leh inaan soo dhawaysto in aan jabhadaha dalka u dagaalamay maalin walba xuso inaan hal nin walba oo Soomaali ah iyo gabar walba oo Soomaali wadankan dartiis inta u dagaalanta u dhimatay ama maxay maanta god ugu jirto inaan salaada markaan dukado wardiga u aqriyo intaas ayaga taraysa ya wadaniyadu iska yeel maaha riwaayad maaha show off maaha ya nin meesha saaran oo bariba baxaya inaad sidii korowgii daba gasho ma aha wadaniyadu waa dhiig iyo curuq waaye wadanimada waa loo dhashaa ee la iskama dhigo ومحدثنتها أبوي فرصة إسيسان أدب محدثنتين هداينا وكوشة وأيوة فرصتها النوع أنا كلا أنا مهلو أنا مدام أنا ورباهية أنا ذات كوارثة تعسنا وحين نقنص أنا جي عبرسن أنا مركب أنا أنكشك هاي فرصة أنا إسيسين أيان هبين كانوا إنجوي كري أو ناركت كنتي بقى جهلي بيني لفي عن تعينان ما أنت ورئيسي كان كقيب قاتو وقت كان أنا أدي لقاته أدي أداهم ما تسنتين أنا إذا كنت محتلنا أدي بعد هتصنتهاي دعوة يا شقيمها يا قدر أنت مضنا وآمن مسوي هي لما سووا كوبي كرا أول مرة أنت الصومالية جودها براروجنتا يقول إنه قضاء النحر قالك حقيقة كلها أنت يقول لما بعرونك أدي كرير جواها ونضيف سن مسووا كوبي كرا سيدا وكرا وحنا رجينا إن برنامج شفرة بدن أو نوع وكرا آمن موسى aanu kugu marti qaadi doono bahda cawayska iyo guud ahaanba social media iyo baraha Soomaalida active galaysa ama Soomaalida baraarujisay waana dadka loo baahan yahay dadka noocan oo kala ummadda Soomaaliyeed kuwa in damiirkoodu uu nool yahay dadka noocan oo kala in ay bulshada gaar ahaan wali aan kula talin lahaa in badan oo waxaa jira website ama goobo live oo sidoo kale dhalinyaro fara badan oo Soomaalinimadkii wali ay nooshahay oo dadka ka wacyi geliya in ay dadkan oo kale ku marti qaadaan aad baan uga codsanayaa si mar uun loo soo celiyo midnimadii Soomaaliyeed iyo sharaftii dhaqankii iyo wanaagii inta badan dhalinyaro fara badan aan laga yaabaa in ayna ka qayb gelin laakiin dadka barkii ay jaaniska u heleen waa jaanis aan marab la iloobi karin badanna barnaamijyada noocan oo kale hadday noo suuro gasho aamina muuse weheliye waa aad ka muuqan doontaa shacabkaagana waad kula wadaagi doontaa lama soo koobi karo dhammaantiin intii daawatay tadaawan doonta kulligiin waxaanu idin leenahay habeen wanaagsan waa kowda luulyo kuwa fara badanna waa aan rajaynaynaa aamina salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh